واتاي صففك لبدا حل كبدا عيتا قبولة نوال إيو سول أيها هاتن قرونكا سوغلي معاليك حلك قبولك نوال يعقوب وعاو خافك كوسو بلعبي عيارتويدا نينك لغو مقعبا أحمد ناني sidoo kale Thomaska waxa ciyaaraya Ciilow Carlos Jaamacdeere Bile sidoo kale Bashka Xaashi ninka lagu magacaabo injineerka ayaa sidoo kale ciyaaraya waatay ayaa Messi ayaa sidoo kale ka mida safka uu ku soo bilaabay macallinka xulka gobolka Nugaal ciyaarta qaybtii hore ayaana mardow bilaabanaysa abshaad line-upka bal saxaha ay ku kala ciyaarayaan labadan macallin hadii aad la wadaagto daawadayaasha saasoo ma santahay tababaraha xulka gobolka Nugaali waxa uu gool ku soo bilaabay gool haye Buufaan daafacyada dhexe waxa taagan Jaamac Muuse iyo Diida labada daafac garbaha lambarka daafaca bidix waxa ka ciyaaraya Carlos Abdullahi Carlos lambarka duwaha ama lambarka midig ee daafacana waxa ka ciyaari doona ciyaaryahanka lagu magacaabo Bashiir Xaashi Thomas ayaa ku burburiye taagan waxaana qad ka dhexe kula midaysan xidigaha Bile iyo ayaan la Messi waxa weerarka kuwada midaysan garbaha injineerka iyo Mahad noomahana waxa ciyaartan ka ciyaaraya ama lambarka 9aad xidiga 11 u xirta xulka gobolka ee Ciilow ninka lagu magacaabo ciyaaryahankii wacdaraha ka dhigay kulankii la soo dhaafay ee Nani ayaa ciyaartan ku jira Binji dabcan tababaruhu ciyaaryahan Nani oo kulankii la soo dhaafay wacdara dhigay ayuu tababaraha xulka gobolka Nugaali Binjiga soo feesiyay maadaama ciyaartu horeba uu badal ku soo galay wacdarana dhigay sidiisii ayuu qorsheynayaa inuu u ahaado shaxdii kulankii hore ee Haylaan ay ka badiyeen waxa uu kaliya ka soo bedelay ciyaaryahan Yuo ayaa ka ciyaaraya lambarka 9aad haatan Ciilow ayaa ka ciyaaraya waa hagaag xidigaha gobolka Nugaali sawir ayay wada galayaan halka xidigaha gobolka Soolna iyaguna ay si gooni u tashanayaan isla markaana ay guul isku balansanayaan waa hagaag waatahay waxaan sugnaaba waa in garsooruhu uu siiriga yeeriyo ciyaartan xiisaha badan in ay halkan si toos uga bilaabato gruubkan waa gruub aad iyo aad u xiiso badan gruubkan waa mid aad iyo aad u xiiso badan aad iyo aad ayuu ciyaartan ay tahay mid u xiiso badan waa gruubka geerida labadan xul kii guuleystaahi waxa uu sii noolaynayaa rajadiisa soo bixitaanka Nugaal hadii ay badiso 6 dhibcood ayay tagaysaa Sool hadii ay badisana waxa imaanaysaa 4 dhibcood hogaanka gruubka ayay la qabanaysaa xulka gobolka Bari waa hagaag waxaan sugnaaba waa in ciyaarta la bilaabo waxaan sugnaaba waa in ciyaarta la baasto waa hagaag ciyaaryahanada gobolka Sool waxay ku ciyaarayaan fanaanada oranjiga halka jaalahana ay ku ciyaarayaan ciyaaryahanada gobolka Nugaal waa kulan kale oo xiiso badan fardiga ayaa iswajahaya labadii gobol ee dariska ahaa labadii gobol ee kubadda cagta ku xifaaltami jiray ayaa halkan isku wajahaya dhinaca koobabka xitaa waa iskaga dhow yihiin Nugaal oo ah difaacayaasha koobka laba ayay ku guuleysteen Soolna koob ayay ku guuleysatay halkan Mirawaare haatan 3 koob ayaa yaalo koobka gobolada Puntland 3 koob ayaa wada ciyaaraya taasi waxay ka dhigan tahay inay halkan ka maqan yihiin 4 koob ee xulka gobolka Bari oo haatan baxay waa tahay ciyaaryahanka gobolkaasi Nugaal goolhayaha lagu magacaabo Buuford ayaa kubadda isku duubay waanaga goolhayaha gobolka Sool waa tahay waa kan ciyaaryahan Mahad kubaddaasi banaanka ayay u baxday gacantuur ay sameeyeen xidigaha gobolka Sool xidigaha gobolka Sool ayaa gacantuur soo sameeyay waa tan Sool qad ka dhaxay garoonka waa kan Jaayo farsamo cajiiba waa tahay Mahad ayaa ka difaacday qad ka dhaxay garoonka waa kan Bile saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa kan Carlos waa kan Carlos ayaa farsameynaya banaanka ayay kubaddaasi u baxday waxa gacantuur sameynaya Carlos Abdullahi Carlos Bile ayuu la ciyaaray waa kan Bile waa farsameynaya Bile waa tahay waa iska soo difaacday Sool waa tan Sool ciyaaryahanka lambarka 8aad weerarka ayuu la ciyaaray fursad khatara waa hagaag waa iska soo difaacday Nugaal qad ka dhexe Sool ayaa xariiftamaysa lambarka 17aad saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray Nugaal waa iska soo difaaceen qad ka dhexe garoonka waa tan Nugaal Carlos faawul ayaa loo dhigay ciyaaryahanka injineerka ee lambarka 14aad u xiran xulka gobolka ee Nugaal
xulka gobolka nugaal sool haddii aynu ku laabanno waxaa goolhayo ugu jira siciid daafaca midig waxaa ka ciyaaraya coondhe daafaca bidix waxaa ka ciyaaraya gaashaan daafacyada gudaha waa tawakal iyo yaxye qadka dhexe waa cumar jaaye iyo booshka weerarku waa siciid guray mahad iyo ibraahim waa hagaag xulka gobolka nugaal hoggaanka ciyaarta ayay qabteen bilowgiiba nugaal hal gool ayaa la timid bilowga ciyaartaba ciyaaryahan bashiir xaashi ayaa dhaliya goolka hoggaanka ciyaarta ay kula wareegtay nugaal ayaa bilowga ciyaarta hoggaanka qabatay xulka gobolka nugaal caasimadii garoowe waa laga dabaaldegayaa iyo garoonka kubadda cagta ee miraawaare nugaal hoggaanka ciyaarta ayay qabatay nugaal xulka gobolka nugaal bilowgii ciyaarta hoggaanka ayay qabteen sool ayaa bartamaha garoonka ka baasatay markan waa kan lambarka 8 ee gobolka sool waa tahay waa hagaag lambarka 4 kabtanka tawakal saaxiibaysa ayuu la ciyaaray waa hagaag waa Carlos waa iska soo difaacay mar kale ciyaaryahanka lambarka 8 ee gobolka sool waa hagaag Thomas ayaa la ciyaaray saaxiibkiisa injineerka bannaanka ayay kubaddaasi u baxday injineerka gacantuur ayay samaynaysaa sool lambarka 2 ee xulka gobolka sool ninka lagu magacaabo gaashaan tawakal saaxiibka ayuu la ciyaaray waa kan Carlos qadka dhexe garoonka Thomas ayaa la ciyaaray diida waa kan xulka gobolka nugaal diida kubadda dheer ayuu weerarka ku quudinaya hase yeeshee waa iska soo saaray daafaca xulka gobolkaasi waa qadka dhexe daafaca dhexe ee xulka gobolka sool ciyaaryahanka xulka gobolka sool lambarka 3 u xiran gacantuur ayay samaynayaan xidigaha nugaal lambarka 3 ee sool waa yaxye waa hagaag aynu dib ugu laabanno goolka waa tahay kubad cajiiba bashiir xaashi shabaqa ayuu ku hubsaday xulka gobolka nugaal ayaa bilowga ciyaarta hoggaanka la wareegay waa kan ciyaaryahan boosh saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray lambarka 17 Thomas oo nugaala waa kan injineerka kabtanka kulankan ee nugaal saaxiibkiisa mahad ayuu la ciyaaray waa iska soo saaray kabtan tawakal xulka gobolka sool goolhaye buufon ayaa markaan kubadda cagta ku haya xulka gobolka nugaal waatan daafaca nugaal ayay haatan taallaa kubaddu goolhaye buufon ayaana gacanta ku haya waa kulan kale oo xiiso badan bilowga ciyaartaba xidiga daafaca ka ciyaara ee bashiir xaashi ayaa hoggaanka ciyaarta u dhiibay xulka gobolka nugaal waa tahay bartamaha garoonka ayaa lagu dagaalamayaa waa hagaag waatan injineerka ayaa haatan cagta ku haya qadka dhexe gobolka nugaal ayaa maamulanaya saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa kan Carlos gaashaan xulka gobolka sool ayaa haatan cagta ku haya jaayo waa isku dayay inuu farsamo cajiiba sameeyo hase yeeshee injineerka ayaa haatan maamulanaya waa kan injineerka saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray injineerka bile waa ku soo riday oo farsamo cajiiba waa kan mahad goolka ayuu joogtay bannaanka ayay samartay alla maxay ciyaartahay daqiiqad kasta goolka ayaa la booqanayaa waa kulan kale oo xiiso badan laba gobol oo xifaaltama aad ayaa halkan loogu dagaalamayaa mira awaare stadium magaalada garoowe derbiyadu waa ay buuxaan tarabuunada ayaa ka daran dadku aad ayay isugu dhow yihiin xamaasadu cirka ayay maraysaa galabta kabtan tawakal bartamaha garoonka sool waatan dadka dhexe ee garoonka xulka gobolka sool jaayo dadka dhexe xulka gobolka sool ayaa haatan saaxiibkiisa la wadaagay sool ayaa weerar samaynaysa waa tan nugaal mar kale Thomas ayaa loo dhigay foul ciyaaryahan Thomas dadka dhexe xulka gobolka nugaal waa tahay sool xulka gobolka sool ayaa haatan maamulka ciyaarta la wareegay lambarka 6 dadka dhexe xulka gobolka sool ayaa wali maamulanaya waa tahay xidigaha weerarka ee gobolka sool kubad faawla ayaa loo dhigay guusha yaale sool baale nugaal baale ayaa tarabuunka ka yeeraysa yaxye waxa uu tuuranayaa faawlka loo dhigay xulka gobolka sool qaadaya hal iyo eber 6 daqiiqo ayay ciyaartu socotaa sool waa ay soo qaadeen fursad khatara goolhaye buufon ayaa kubaddaasi gacanta ku dhigay goolhaye buufon goolka ayuu ugu jiraa xulka gobolka nugaal ciyaartu waa hal iyo eber nugaal ayaa hogaaminaysa bilowga ciyaartaba waa kan injineerka qadka dhexe saaxiibkiisa Thomas waa u baasay qadka dhexe
ciyaaryahanka xulka gobolka nugaal iyo lambarka 7 ee gobolka sool ninka lagu magacaabo waa lambarka 17 ee sool ninka lagu magacaabo mahad ayaa ku dagaalamaya waa hagaag nugaal ayaa markan garabka weerar ka sameynaysa waa ta nugaal ciyaaryahanka lambarka 11 ceelow daafac cajiib ayaa lagu sameeyay foul ayuu sagalay waa kan kabtanka gobolka sool kabtan tawakal kubada dhaadheer ayuu weerarka ku quudinaya waa hagaag lambarka 22 ee weerarka nugaal ayaa iska soo saartay 17ka mahad saaxiibkiisa 3aad ee xulka gobolkaasi sool ninka lagu magacaabo Coonde ayaa garabkaas daafaca ka dagaalamaya isna waa tahay nugaal kubad gacantuura ayay sameynayaan xidigaha sool foul ayaa loo dhigay xulka gobolka nugaal Thomas ayaa kubadaasi soo bilaabaya Thomas ciyaartani waa mid ka xiisa iyo xamaasad badan kulamadii hore laba gobol daris aadna u xifaaltamaya isku wajahaya martigeliyaashu waxay la ciyaarayaan gobolkooda ugu dhow ee dariska waa Soole dhinaca koobabka 3 koob ayaa garoonka yaala 3 koob xulal haysta ayaa halkan ku wada ciyaaraya Sool hal koob ayay leedahay koobka gobolka Puntland halka Nugaalna ay laba ku guuleysatay Jaayo ayaa foul loo dhigay waa ciyaaryahan qadka dhexe aad ugu xariiftamaya ciyaaryahan Jaayo lambarka 5 ayuu xurtaa gobolka Sool markan Yaxye tawakal ayuu uga tagay kabtanku goolka ayuu beegsanayaa kabtanku kubada dhaadheer ayuu qaadaya xidigaha weerarka gool u bedel ayuu leeyahay ciyaarta barbara ku soo celiya xulka gobolka Sool ciyaaryahano fursad khatar Sool lambarka 7 ee gobolka Sool waa iska soo saartay nugaal waa kan mahad foul fursad cajiib ah ayay taasi ahayd xidigaha gobolka nugaal ayaa iska soo difaacay lambarka 7 ayaa ku celiyay hase yeeshee markale nugaal waa iska soo difaacday haatan kubad foul waxay u taalaa xulka gobolka Sool waa xulka gobolka nugaal ayay markan u taalaa nugaal ciyaaryahan Bashiir Xaashi saaxiibkiisa gaashaan ayuu uga tagay ciyaaryahanka lambarka 2 ee gobolka nugaal waa ninka lagu magacaabo ayaan Lamiisi waa tahay ciyaaryahan ayaa garoonka dhex yaala kooxda caafimaadka ayaa loogu yeeray waa ciyaaryahan ka tirsan gobolka Sool dhaawac ayuu ka cabanayaa kooxda caafimaadka ayuu garsooro ugu yeeray goolhaya ayaan la Buufon waanaade goolhaya Buufon oo ka tirsan xulka gobolka ee nugaal saaxiibkiisa gobolka Sool lambarka 7 ayuu xaaladiisa fiiriyay kubadda cagtu waa xushmad iyo saaxiibtinimo dhalinyarada ayuu isku xirtaa marka laga tago ciyaarta dhexdeeda in lagu xifaaltamo haddana dhalinyaradu waa saaxiibo marka uu mid dhaawac soo gaaro ciyaaryahanada kale ee xulka kale ka tirsan waa saaxiibkooda inay soo ogaadaan xaaladiisana waa laga maarmaan waa hagaag wali ciyaaryahanka lambarka 7 ee gobolka Sool ayay kooxda caafimaadku la tacaalaysaa nugaal qadka dhexe ee garoonka waa tahay ciyaaryahanka lambarka waa tahay nugaal Sool ayaa weerara waa ta Sool nugaal waa iska soo saareen kulanku aad ayuu u xiiso badan yahay garoonka kubadda cagta Milaan Waare magaalada Garowe ayaa si toos ah live-kan kaga imaanaya u daawanaysaan Puntland TV ayaa live ka sameynaya sidoo kale waxaa live ka sii qaadanaya oo baahinaya TV badan oo Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay Star Sports waxaa kale oo ka mid ah TV-yadaasi SBC dhinaca baraha bulshada Dalmar Media Kasmaal Rasmi Cable STN TV iyo sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah warbaahinta Soomaalida ayaa si toos ah uga daawanaysaan waa hagaag xulka gobolka Sool ayaa markaa soo bilaabay nugaal waa iska soo difaaceen goolhayaha xulka gobolka Sool ayaa markaan gacanta ku haya goolhaya Siciid ayaa goolka ugu jira xulka gobolka Sool ciyaartan xiisaha badan bartamaha garoonka Thomas lambarka 8 ee xulka gobolka Sool Bosch injineerka markale injineerka saaxiibadiisa ayuu la ciyaaray waa kan ciyaaryahanka lambarka 2 ayaa Lamiisi saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa kan Bashiir Xaashi dhaliyaha goolka koowaad ee ciyaarta Bashiir markale goolka injineerka safe ayuu sameeyay goolhaya Siciid injineerku fursad cajiib ayuu helay Bosch ayaa kubaddaasi banaanka iskaga saaray injineer
aynu ku laabanaba fursadda cajiibka injineerka fursaddaasi goolhaya siciid ayaa ka beeniyey waatan mar kale nugaal waa weerar mar kale xulka gobolka nugaal ayaa weerara goolhaya siciid ayaase kubaddaasi gacanta ku dhigay waa hagaag bartamaha garoonka lambarka 17aad ee xulka gobolka sool ninka lagu magacaabo mahad waa hagaag xulka gobolka sool ayaa weerara fursad khatara oo faawul ayaa lagu galay lambarka 7aad ee xulka gobolka sool ciyaaryahan khubayb lambarka 7aad ee xulka gobolka sool waa ciyaaryahan khatar badan ku abuuraya daafacyada ka soo horjeeda faawul ayaa lagu galay ciyaaryahan jaayo ayaa tuuranaya ciyaaryahan qadka dhex xariif ku ah jaayo goolka uu waardiyaha ka yahay goolhayo buufoon ayuu markaan duulaan ku yahay fursad khatara inkastoo ay ka fog tahay xeeqis 18ka haddana jaayo goolka ayuu beegsanayaa madaxa ayuu soo saaray fursad khatara buufoon ayaa isku laabay buufoon waa isku duubay kubad khatara oo shabaqiisa ku socotay sool ayaa madaxaysa kale waa kan bashiir xaashi waa hagaag saaxiibadiisa ayuu la ciyaaray nugaal waa weerar waa kan mar kale xulka gobolka nugaal waa weerar kale oo cajiiba injineerku waa isku dayey hase yeeshee ciyaaryahan gaashaan ayaa ka saaray waa kan bile saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray sool waa iska soo saartay lambarka 7aad ee gobolka sool waa ta sool kubadda dhaadheer ayay khubayb iyo saaxiibadiisa weerarka ku quudinayaan waa ta sool ayaa weli kubadda xarakaynaysa khubayb ayaa loo baasay kubad khatara khubayb lambarka 7aad khubayb waa xarakaynaya ciyaaryahanada gobolka nugaal ayaa si hortaagan oo diidan in goolkooda khatari ay ku timaado ciyaaryahan injineerka weli waxa uu muujinayaa sida uu uga xun yahay fursaddii cajiibka ahayd ee uu ka seefgareeyey goolhayaha gobolka sool ninka lagu magacaabay siciid kubadda koornada nugaal ayaa sool ayaa soo tuuranaysa gobolka nugaal gooshooda ayaa weerar lagu yahay markan ciyaartu waa 1-0 oo nugaali ay ku hogaaminayso 13 daqiiqo fursad khatara waa tahay sool fursada cajiiba ayaa soo maraya hase yeeshee in gool loo bedelo weli ma aysan dhicin buufoon ayaa soo bilaabaya goolhayaha gobolka nugaal ayaa soo bilaabay saaxiibadiisa daafaca waa ka Thomas ayaa la ciyaaray ciyaaryahan bashiir xaashi waa kan kubaddaasi bannaanka ayay u baxday ciyaaryahanada gobolka sool ayaana gacanta u soo samaynaya maxamed rasaas aadoo maasantay cabdirasaaq dadkii daawadayaal waxaa daawanaysaan ciyaar xiiso badan oo dhex maraysa gobolada nugaal iyo sool waa 1-0 oo xulka gobolka nugaal daqiiqadii hore ciyaartada uu ku hogaaminayay bashka daafaca dambe ee xulka gobolka nugaal 1-0 awlaadul caasiba waa dabaaldegayaan wiilkooda daafaca dambe ee garabka midig bashka xaashi ayaa daqiiqadii ugu horreeyay ka farxiyey miraha waar istaadiyo magaalada garowe caasimada dowladda puntland dongoroyo ayl iyo sidoo kale burtula ayaa laga dabaaldegayaa guud ahaanba xamaasada gobolka nugaal aad ayay markan u kacsan tahay wiilasha garoonka ugu jira ayaa la hisdejiya annaga ayaa idiin joogna waa idiin shaqaynana markan daafaca dambe xulka gobolka nugaal bashka xaashi ayaa kubaddaasi soo tuuraya saaxiibkiisa mahad ayuu marka kubadda la ciyaaray waa soo daafacan xulka gobolka nugaal mar kale Thomas ayaa kubadda cagta ku haya Thomas gobolka nugaal oo khalad ayaa lagu galay Thomas oo ah lambarka 6aad ama kubad buriyaha ciyaartooyda xulka gobolka nugaal laadeer ayaa soo laadeer ciyaartooyda xulka gobolka nugaal weerar ay ku jiraan nugaal alle nugaal maanta halkan wacdana ayay ka dhigayaan natiijada ayay waxay rabaan inay sii dheeraystaan hoggaanka waxay ogyihiin dhibaatadii ku dhacday dhigooda gobolka bari oo markan waxay raadinayaan inay hoggaanka gruubka la wareegaan sida 6 dhibcood ayay ku leeyihiin gruubka ayaga horkacaya sool dhibaato ayay tani ku tahay oo 1 dhibic ayay leeyihiin tanna haddii laga badiyo waa weji gabax kale ciyaartan waa mid xiisaheeda iyo xamaasadeedaba leh waa mid lagu tilmaamay inay tahay derbiga tartanka kubadda cagta gobolada puntland labadan gobol xifaaltan aad u weyn ayaa ka dhexeeya ciyaartooy magac iyo maamuus ku lahaa kubadda cagta puntland ayaa labadan xul soo kala metelay nugaal haddaan ku hormarno maxamuud timijilic oo ka mid ah ciyaartooyda qaranka soomaaliyeed haatan ka ciyaara mid ka mid ah naadiyaasha ka dhisan waddanka qatar ayaa halkan miraha waare ka soo baxay waxa uu ahaa guulaystayaashii gobolka nugaal 2012 kuwa guulaystay tartankii gobolka gobolada cagta puntland sidoo kale gobolka sool dhiidhiyo cabdisalaam dhiidhiyo ayaa ka mid ah ragga khatarta ah oo gobolkan ka soo ciyaaray isaguna waxa uu kula mid ah raggii kula guulaystay tartankii 2009kii koobka gobolada puntland waa tahay gobolka sool ayaa markan weerara bannaanka waa kuwan
ciyaartooyda xulka gobolka nugaal jaamac dheere waa uu soo badbaadiyey kubaddaasi carlos waxau la ciyaaray thomas carlos ciyaartooyda gobolka nugaal tikitaka tawakal waa khalad ayuu sameeyey ma lagu ganaaxi doonaa khaladkaasi waxaa badbaadiyey ninka lagu magacaabo siciid waardiyaha shabaqa xulka gobolka sool waa kan booshka lamarka sideedaad xulka gobolka sool saaxiibkiisa lamarka 7-aad xulka gobolka sool ayuu markan u baasay mahad sidoo kale mahad mar kale weerar ay ku jirta sool waa iska soo dafaaceen ciyaartooyda xulka gobolka nugaal daqiiqada isdaba jooga ayaa weerar culus la isku qaadaya ciyaartana waa mid xiiseynaya xamaasadeedaba leh haatanna dhulka waxaa yaala mid ka mid ciyaartooyda xulka gobolka sool booshka oo ah khadka dhexe mishiinka xulka gobolka sool ayaa markan dhaawac ka cabanaya waa tahay ciyaartooyda xulka gobolka sool booshka lamarka 8-aad xulka gobolka sool ayaa markan dhulka yaala daqiiqad ayaa halkan la isu weeraraya markasta waxaa loo dhowaanayaa in shabaqa la soo taabto nugaal waxay ku dadaalaysaa inay sii dheeraysto hoggaanka ciyaarta sool waxay ku dadaalaysaa inay soo barbarayso sool ma samayn doontaa wacdalihii maalinkii sanaag 4 gool iyo 4 gool 3 jeer oo ka mid ah wax soo bareejaysay war maanta nugaal ma soo barajayn doontaa mise nugaal ayaa sii dheeraysan doonta hoggaanka haddii shalay sanaagaad soo dhalisay oo soo barajaysay nugaal waxay leedahay maanta maya waa tahay aynu eegno wakhtiga ayaa sheegi doona cayaar xiise leh garoonka miraha waare tarbuulka waa buuxa siliga ayay ku hareeraysan yihiin taageerayaasha labada xul ee gobolada sool iyo nugaal waa tahay garsooraha ayaa markaa ciyaarta dib u bilaabaya waa tahay way turtay ciyaartooyda xulka gobolka sool diida waa iska soo saareen daafacyada xulka gobolka nugaal waa kan tawakal iyo sidoo kale ceelow inkasta oo uu ceelow kubaddaasi uusan gaarin haddana waxay ahayd kubad halisteeda leh waa tahay taayo iyo sidoo kale markan khadka waxaa ku dagaalamayay kubaddaasi ninka lagu magacaabo mahad taayo oo lamarka shanaad ee xulka gobolka sool wuxuu xurayahay lamarkii kabtan cabdisalaam didiyo kabtanka xulka puntland ahna gobolka sool waayo haatan kabtanka tawakal lamarka afraad xulka gobolka sool laadeer ayuu kubaddaasi gaarsiiyey hase yeeshee jaamac dheer ayaa kubaddaasi iska soo badbaadiyey sool weerar ayay ku jirtaa markan waa tahay sool waqti ayaa ku socda qaybta hore ciyaarta waxaa looga hormaray hoggaanka ciyaarta gobolka nugaal waxaa gooshaasi u dhaliyey hadda lagu soo birtay bashka ninka lamarka 12aad wuxuu daafaca ahana garabka midowga gobolka nugaal waa tahay booshka kubaddaasi banaanka ayay kubaddaasi martay cumar dheere oo ah lamarka 6aad ee xulka gobolka sool kubaddaasi madaxa ayuu ku dhuftay oo goosha ayuu la beegsaday balse banaanka ayay uga baxday haatanna dhulka ayuu yaalaa oo waxa uu ka cabanayaa in dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah daafacyada xulka gobolka nugaal oo garbiyey markii uu kubaddaasi madaxaynayay ayaa xiisa badan ayaa halkan daawadayaal galabta ku dhex maraysa gobolada nugaal iyo sool nugaal ayaa hal iyo eber ku hogaaminaysa ciyaarta qaybta hore ciyaarta haatan maraysa daqiiqadii 19 20 daqiiqo ayaa marka lagu dhow yahay 20 daqiiqo ayaa marka lagu dhow yahay nugaal sidan 6 dhibcood ayay ku leedahay hoggaanka gruubka ayada marka ayaa gacanta ku hayso oo la wareegtay waxa uu harsan xulka gobolka sanaag oo isagu 2 dhibcood leh waa ciyaarta ugu dambeysay xulka gobolka nugaal ay halkan ku ciyaari doonaan tartanka heerka gruubada waa tahay gruubkan waa gruub A waa xul waxaa ku jira xulal 5 ah oo lagu tilmaamo in ay yihiin 5ta xulba kuwa ugu adag ee dhanka kubadda ugu farsamada wanaagsan waa tahay markan sool ayaa weerar ah daafaca xulka gobolka nugaal ahna ku burburiyaha ninka Thomas lagu magacaabo ayaa khalad ku galay mid kamid ah ciyaartooyda xulka gobolka sool taayo oo gobol lamarka shanaad xulka gobolka sool ayaa marka kubadda diyaara taayo lamarka shanaad xulka gobolka sool taayo xagee kubadda geyn doona taayo lamarka shanaad xulka gobolka sool taayo nugaal waa hal sool waa eber ciyaar xiiso badan waa tahay muuqaalka sii sheergaraya daawadayaal oo gaarsiiya baraha bulshada saaxiibada kale si ay ciyaartan xiisaha iyo xamaasadda ay u daawadaan oo ay u arkaan waa tahay si ay u arkaan derbiga koobka kubadda cagta gobolada puntland waa sool iyo nugaal taayo kubaddaasi waa ulaaday hase yeeshee goolhaya buufan ayay si sahla ugu tagtay buufan waa mid ka mid ah goolhayaasha ugu tayada wanaagsan ee tartankan oo gobolka nugaal ayuu haatan matalayaa oo waardiye u yahay shabaqooda waa kan bashka xaashi
saaxiibkiisa mahadka ayuu la ciyaaray lamarka 7 xulka gobolka nugaal waa weerar markaan waa tahay waa socota ayaa la yidhi inkastoo uu ka cawday in ay kubaddaasi faawo ahayd waa kan cumar buriyaha xulka gobolka sool cumar waayahay saaxiibkiisa gaashaan lamarka 2 xulka gobolka sool ayuu kubaddaasi la ciyaaray gaashaan saaxiibkiisa waxuu la ciyaaray inkastoo kubaddaasi ayaa la beesay ay ka baxday haddana waxuu dabacay inuu baas gaarsiiyey saaxiibkiisa boosh lamarka 7 xulka gobolka sool gaashaan ayaa markan kubadda tuuranaya gaashaan lamarka 2 xulka gobolka sool gaashaan ayaa markan kubadda tuuranaya gaashaan kubaddaasi waa uu tuuray saaxiibkiisa jaayo lamarka 5 anaadeen lamarka 17 ayaa markan kubadda wata sool ayaa markan weerara lamarka 17 xulka gobolka sool waa tahay daafaca xulka gobolka nugaal ninka lagu magacaabo jaamadeer ayaa kubaddaasi si cajiib isaga soo saaray mar kale ayay weerar ku jira xulka gobolka sool coonde iyo sidoo kale bashka ayaa markan hardamaya coonde iyo bashka waa uu iska soo saareen ciyaartoyda xulka gobolka nugaal mar kale ayaa kubadda lagu dagaalamaya khadka dhexe xulka ciyaarta garoonka miraha waarista iyo magaalada garowe waa kan coonde saaxiibkiisa cumar ayuu la ciyaaray cumar mar kale cumar maharad ayuu samaynaya waa tahay taayo lamarka 17 xulka gobolka sool waa kan sool weer ayay ku jirtaa mahad waa kan ninka lagu magacaabo gaashaan lamarka 2 xulka gobolka sool gaashaan iyo injineerka kabtanka xulka gobolka maya ayuu yidhi waa tahay khalad ayaa lagu galay injineerka oo ah lamarka 14 ahna kabtanka xulka gobolka nugaal waayahay kubadda dib ayaa loo celiyay garsooruhu oo hala soo bilaabo mar kale waa tahay sool xaaladdu markan waa ku xuntahay waxay ku dadaalayaan sidii ay gooshaasi daqiiqada hore ciyaarta looga naxsaday shabaqooda ay soo barbareyn lahaayeen waa tahay natiijada ciyaarta waqtiga ugu dambeeya ayaa la ogaan doonaa hase yeeshee markan waa halyeegana gobolka nugaal ayaa ciyaarta hogaaminaya carlos ayaa markan kubadda wata carlos gobolka nugaal injineerka tawakal injineerka kabtanka xulka gobolka nugaal waa weerar injineerka saaxiibkiisa bila nugaal waxa ay samaynaysaa weeraraysta jooga marba marka ka dambaysa waxa ay isku dayeen inay booqdaan shabaqa wardiyaha ka yahay goolhaya Siciid waxa ay isku dayeen inay dhibaato u geystaan oo ay sii dhibaateeyaan dhigooda gobolka sool hal ay ka dhaliyeen daqiiqadii ugu horeysay markana weerar ay ku yihiin korna ayaa lagu abaalmariyay ciyaartoyda xulka gobolka nugaal oo markan soo laadanaya korno markan injineerka ayaa u diyaara injineerka kubaddaasi waa uu korosay koorna kale daafacay xulka gobolka sool xaaladdu markan waa weeraraysdaba jooga shaqa culus ayaa u taalla ma injineerka iska qabtaan ma bay qabtaan ma mahad bay qabtaan xaaladdu waa ku culus tahay markan waa tahay injineerka ayaa mar kale laadaya injineerka korno injineerka kubaddaasi waa korosay mar kale ayay isku dayeen inay soo taxtaan shabaqa hase yeeshee garsooraha ciyaarta ayaa kubaddaasi tilmaamay inay khalad tahay tawakal kabtanka xulka gobolka sool bilaabaya daafaca dambe xulka gobolka sool ayaa markan kubadda laga soo bilaabaya tawakal laadeer ayuu khadka dhaca garoonka miraha waara soo dhigay markan saaxiibkiisa afka hore ninka lagu magacaabo qalad ayaa lagu galay lamarka 22aad ee xulka gobolka sool ahna weerarka ciyaartan uga ciyaaraya gobolka sool mahad ayaa markan kubadda diyaarada marka 17aad xulka gobolka sool mahad khadka dhexe ayay kubaddu markan taala ee garoonka miraha waarista iyo magaalada garowe caasimadda puntland natiijadu waa hariyay gobolka nugaal ayaa marka ciyaarta hogaaminaya waxaa u dhiibay gooshaasi una dhaliyay una saxeexay bashka xaashi lamarka 22aad xulka gobolka nugaal daafaca dambe garabka mudug qalbi daafaca gobolka ayuu ka mid yahay waa tahay tawakal ayaa markan kubadda soo laadaya tawakal kabtanka xulka gobolka sool laadeer ayuu kubaddaasi kula beegsaday shabaqa hase yeeshee bannaanka ayay kubaddaasi martay mar kale ayaa laga soo bilaabaya daafaca dambe xulka gobolka nugaal goolhaya buufan masrax ayaa magaciisa caadiga lagu magacaabaa buufan waxa uu kala mid yahay dhanka badbaadinta sida uu abuurayo kubadaha badbaadinta ayaa mid cajiiba xirfadiisu aad ayay u saraysaa waa tahay gobolka nugaal ayaa markan kubadda soo bilaabaya goolhaya buufan saaxiibkiisa jaamac dheer ayuu kubaddaasi la ciyaaray jaamac lamarka 13aad xulka gobolka qalbi daafaca gobolka nugaal carlos ayuu u tuuray garabka bidixii xulka gobolka nugaal carlos sidoo kale saaxiibkiisa thomas ayuu kubadda soo siiyey thomas nugaal tiki taka waxaa la ciyaarayaa ceelow lamarka 13aad xulka gobolka nugaal ceelow ceelow maharaad ayuu samaynayaa garoonka waa wax kale kubadda shuuda bashka xaashi haddii ay halkaasi uu gool qurux badan ka dhaliyey mar kale ayuu isku soo dayay inuu shabaqa soo taabto balse bannaanka ayay kubaddaasi ka martay sool waa kan mar kale shabaqa tawakal lamarka 4aad xulka gobolka sool ahna kabtanka xulka waa kan lamarka 10aad xulka khubeeb ayuu kubaddaasi isku dayay inuu siiyo hase yeeshee waa laga xirtay daafacii xulka gobolka nugaal waa kan buufan ciyaartooyda gobolka nugaal daafaca dambe uga ciyaaraya feejkina dheeriya iyo shaqa culus ayaa u taalla markana waxa ay iska ilaalinayaan weerarada
halista uga imaanaya lamarka toddobaad ee Khubayb ninka lagu magacaabo gobolka Sool khadka dhexe ayuu soo dhigay ninka lagu magacaabo Buufan kubadaasi ciyaartoyda xulka gobolka Sool waa iska difaaceen Bashka Xasha ayaa marka kubada cagta ku haya saaxiibkiisa Thomas ayuu la soo ciyaaray ayaa la Messi ayuu isaguna u dhiibay Messi baas cajiib ayuu soo siiyay Ceelow waxa uu siiyay saaxiibkiisa Mahad lamarka toddobaad xulka gobolka Nugaal waa weerar Mahad ya Mahad waa iska soo daafacay ciyaartoyda xulka gobolka Sool waa tan markale Sool ayaa weerara Chayo lamarka salaad xulka gobolka Sool khalad ayaa lagu galay Chayo lamarka salaad xulka gobolka Sool ciyaartan waa ciyaar kale waa mid xiisaheeda iyo xamaasadeeda leh waa mid uu kulul halkan maanta ku dhex maraysa maalintu waa Jimce garoonka waxa soo buux dhaafiyay dadweyne aad u tiro badan oo u soo daawasho tagay caasimada garoonka martigeliyaasha tartankan ciyaarta wiilashooda ay halkan ku matalayaan haliyo warbiyada ku hogaaminayaan reer Garoowe maanta way soo buux dhaafiyeen garoonka reer Sool meesha kuma yara oo tarabuunka waa xaaladu waa ku xuntahay maanta hadan ugu yaala waqtigan Sool waa musayiin ilaa ay iska soo barbareeyaan gooshaasna hadan uma ka ayaa la yidhi waa kan Khubayb waa iska soo daafacay Buufan badbaadin cajiib ayuu markaa sameeyay waa kuwa ciyaartoyda xulka gobolka Sool waa kuwa Nugaal mar kale Nugaal waa kan bila lamarka saddexaad ee xulka gobolka Nugaal bila injineerka wax kale waxa uu baasay saaxiibkiisa lamarka toddobaad xulka gobolka Nugaal Mahad waxa uu daayay saaxiibkiisa Bashka waa kan Bashka karoos dheer ayuu sameeyay daqiiqada ka dambaysa meeshan waxaa ka dhacay weerar culus weerar halisa kooxda kale ayay shabaqooda isku dayaysaa inay soo booqato hase yeeshee xaaladdu waxay ku xuntahay Sool barbar raadinaysa Nugaaliyadu daafacasho iyo hoggaan dheeraysi ayay hawsheeda ugu badan ay tahay halka Sool ay barbar raadinayso waa kan Condha lamarka saddexaad xulka gobolka Sool laa dheer ayuu baasay hase yeeshee gool haya Buufan ayaa kubadaasi ay u tagtay Buufan markale ayuu soo bilaabay kubada saaxiibkiisa ayaa la Messi ayuu markaan u baasay waa tahay ayaata waxa la geliyay hakad ayuu markan garsooruhu ciyaarta geliyay calan walaha ayaa markan u yeelay garsooraha caawiyaha koowaad وحاجة كلها كلها وحيسة بدن أي دعوة إنسان وقرن كوبا دعيت مراه واري مقالة جروي كجاي معنا صدق دقيقة ينكسي دوان الناس دير يلا واتن دقيقة يدقيقهم ريان هجان كعيار النقال أي بلوجي بقبطي عياريان كلهم مقعوا بشير حاشا يانا كول كبلوج عيار تودلي حلك قبل كالنقال حلك قبل كالنقال حدي أيسدن كقوليستان وحين نقول دوتا عيار تودي لبعض يقوليستان أيان كل كيف فرتان كان يقول درها يكلا كل ما حلك قبل كبري حدي أي بديان هجان كعيار تاي قبل دونان وهجاك واتاي كوها عافيمادك يا قيمين يا حالة قرصورها كلنكا عودا وحكا عضنيا واتاي عيارتا يو قرصوره جوجيه كدي مركي وحانون دريمي كوحدا عافيمادك يا أنا حالة دي سقيمين إيسا عن روجيني نايرو قرصوره عيارتا ينوسي دحد حاديو وصنوح من نقول إن شاء الله كلنكو وامد كلا وحيسا بدن وحال دحمر سا عيارتاني حلالك قبل الصول ينقال Sool kulankeedii ugu horeeyay sanaag ayay 4 la gashay ciyaar 8 gool la iska dhaliyay Nugaali kulankii furitaanka guul darra ayay kala kulantay xulka gobolka Bari kulankii xigay ayay 2-0 kaga adkaatay Highland ayaa iyaduna galabta Bari afka ciid u dartay taasi waxa ay ka dhigan tahay in xulka gobolka Highland 3 dhibcood leeyahay Nugaali hadda 6 dhibcood ayay sidaa ku leedahay haddii ay guuleysatana hoggaanka ayay qabanaysaa Bari ayaa 4 dhibcood maadaama kula laga badiyay kulana ay badisay midna ay barbara gashay xulka gobolka Sool kulankoodii labaad ayay ciyaarayaan hal dhibic ayay leeyihiin sanaag oo laba kulan ciyaartayna 2 dhibcood ayay leedahay maadaama ay labadaba bareejo gashay 2-2 ayay la galeen xulka gobolka Bari halka sidoo kalena 4-4 ay isla gaareen xulka gobolka Sool gruubkan waa gruubka dhimashada ilaa iyo haatan lama saadaalin karo cidda soo baxaysa halka gruubka Bina ay haatan dhibco ku hogaaminayaan xulalka gobolada Mudug iyo Highland Mudug Cayn iyo sidoo kale Karkaar oo isku wada 3 dhibcood leh waa tahay gruubyada marka loo fiiriyo B iyo A midkoodna ilaa iyo haatan lama go'aamin karo cidda soo baxday gruubka B oo kale 3 xul ayaa isku dhibca waa Mudug Cayn iyo Karkaar halka sidoo kale
ay gruubkanina xulka gobolka nugaal oo haatan goolle 6 dhibcood ku horkacayaan barina ay 4 dhibcood leedahay sanaag anaadi haylaan ayaa 3 dhibcood leh sanaag 2 dhibcood soolna 1 dhibic waa tahay dib ayaa loo bilaabay ciyaarta qadka dhexe garoonka waa kan ceelow kulankan ayaa lagu soo bilaabay waa wax kaleynaya tayadiisa ayuu muujinayaa waa kan bile ciyaaryahan gaashaan oo lambarka labaad gobolka sool u xiran ayaa ka difaacday waa tahay markan waxaa soo tuuran doona ciyaaryahanada gobolka nugaal ciyaaryahan ceelow oo kulankan uu yahay kiisii ugu horreeyay lagu soo bilaaba ayaa halkan tayadiisa ku soo bandhigaya lambarka 11aad ayuu xiraya xulka gobolka nugaal qadka dhexe ee gobolka sool waxaa iftiiminaya xidigaha booshka iyo xidiga lagu magacaabo jaayo lambarka 5aad iyo lambarka 8aad ayuu kala xidhan xulka gobolka sool kabtanka xulka gobolka sool ninka lagu magacaabo Tawakal ayaa halkan hogaaminaya daafacyada xulka gobolka sool ee dadaalka dheeriga kala hortagaya ceelow iyo saaxiibadiisa injineerka iyo mahad qadka dhexe garoonka ayaa lagu dagaalamaya waa kan Thomas shuud ayuu isku dayay hase yeeshee sool waa iska soo difaacday waa tan sool mahad waa laga soo difaacday Thomas gobolka nugaal ayaa markan maamulaya Thomas ceelow ayuu soo qaaday Tawakal goolhaye Siciid ayuu kubadani la wadaagay waa tahay xulka gobolka sool lambarka 22aad saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray وهجاج خبيب أي جرب كيف تيمنا يحوك جبل كسول واتاي قد كده جايو صاحب كيس أيو العيار خبيب جايو لما كان يلا تالي حوك جبل كسول أيو العياري شامع موسى ياسكسو دفاعي شامع الكعسة عياريها كدافع وتاجن جبل كنوغال واتاي توماس حوك جبل كسول أيام مركان معمولية سول واتاي قعنتور أي سمين دوران حديقها جبل كسول ciyaaryahan mahad waxa uu ka cabanayaa inuu qalad ku galay ciyaaryahan ka tirsan ciyaaryahanada xulka gobolka sool waa xidiga lagu magacaabo Coonde waa tahay garsooruhu ciyaaryahanada labada dhinac ayuu ugu baaqayaa inay isdejiyaan waxa uu siinayaa digniin ciyaarta oo ka xumaata xanaaq aad muujisid ciyaarta ayay ka xumaynaysaa waa hagaag ciyaaryahan mahad dhulka ayuu yaalaa waa isagu ku ciyay garsooruhu ugu dambayn saaxiibkiisa Coonde ayaa raaligelin siinaya waa tahay gacantuur ayuu samaynayaa Coonde xulka gobolka sool waatan mar kale saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray qadka dhexe ee sool kubadda dhaadheer ayuu la ciyaaray saaxiibkiisa garabka daafaca ee gaashaan waa laga soo difaacay waa kan injineerka garabka xulka gobolka nugaal injineerka waxa uu la ciyaaray ceelow waa jeestay ceelow xarqisda 10 waa laga daafacay ciyaaryahan Yaxye oo lambarka 3aad u xiran xulka gobolka sool offside ayaa laga dhigay ciyaaryahan ceelow xulka gobolka sool ayaa markaa soo bilaabaya Tawakal kabtanka qalbi daafaca mas'uuliyadda xulka gobolku ninka ay saaran tahay kubadda dhaadheer ayuu ka soo qaadaya daaficiisa waxaana uu gaarsiinayaa nimanka weerarka ka ciyaaraya goolka barbaraha ay keenay ayuu leeyahay fursad khatara daafacyada xulka gobolka nugaal jaamac dheer ayaa u muuqday inuu qalad galay hase yeeshee waa ay soo astureen ceebtooda kubaddana bannaanka ayay iskaga saareen gacantuur ayay samaysay sool waa kan gaashaan saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa ta sool mar kale sool weerara ayaa abuuraysaa waa ka Thomas nugaal ayaa la wareegtay ceelow waa laga difaacay kabtan Tawakal ayaa yidhi halkan aniga ayaa madax ka ah daafacu aniga ayuu camilan yahay waa adag tahay in la soo galo marka laga reebo hal gool oo bannaanka ka soo toogtay bashka waa adag tahay in gooshiisa loo doomaro xidiga lagu magacaabo Tawakal waa ciyaaryahan xulka Puntland ku soo matay tartanka dowlad goboleedka Soomaaliya waa ciyaaryahan ku wanaagsan dhinaca daafaca dhexe Tawakal lambarka 4aad iyo kabtanka xulka gobolka sool gacantuur ayay sameynayaan xidigaha gobolka nugaal waa kula xiiso badan ayaa daawanaysaan daawadayaal Puntland TV ayaa leefkaasi toos uga daawanaysaan iyo warbaahinta kale ee Soomaaliyeed oo iyaguna leefkaasi baahinaya Astaan Sports ayaa kamid ah meelaha nagala socotaan qadka dhexe xulka gobolka sool qadka dhexe lambarka 17aad mahad Khubayb ayuu la ciyaaray goolhaye Buffon ayaa se kubaddaasi sida haadka ugu duulay waa hagaag goolhaye Buffon saaxiibadiisa daafaca qadka dhexe ayuu soo dhigay waa kan Thomas qadka dhexe ayaan ninka lagu magacaabo bile injineerka mahad ayuu kubadda dhaadheer la ciyaaraya waa kan mahad garabka ayuu nuurinayaa mahad oo goolka ayuu beegsay hase yeeshee ciyaaryahan Siciid
goolhayaha gobolka sool ayaa kubaddaasi soo badbaadiyey waa hagaag gaashaan saaxiibkiisa qadka dhexe ayuu la ciyaaray mahad ayaa la ciyaaray saaxiibkiisa kale ee daafaca waa hagaag mar kale xulka gobolka sool booshka waa laga soo difaaca araahda lambarka 6 ee xulka gobolka sool ayaa kubaddaasi faawa lagu galay xidigaha gobolka sool ayaa markaan tuuranaya ciyaaryahanada gobolka sool kubad qaladoo loo dhigay ayay tuuranayaan saaxiibkiisa garabka ayuu la ciyaaray gaashaan bannaanka ayay kubaddaasi uga baxday xidigaha gobolka nugaal gacantuur ayay soo samayn doonaan 36 daqiiqo kulan kale oo ka tirsan koobka gobollada puntland waa kan injineerka bannaanka ayay kubaddaasi uga baxday injineerka waa hagaag ciyaaryahan gaashaan lambarka 2 ee gobolka sool gacan ayuu tuuranaya amaba kubadda gacantuurka ee foore gacanta waa kan kabtan tawakal khubayb iyo saaxiibadiisa weerarka ayuu quudinayaa lambarka 22aad ee xulka gobolka sool waa hagaag daafaca xulka goolhayaha xulka gobolka nugaal ayaa markaan soo bilaabaya taageerayaashu halkan caagadahooda biyaha ayay u soo dhaansadeen maanta si ay wakhti badan garoonka ugu sugnaadaan maadaama kulamo xiise badan ay sixigeen bari ayaa halkan guuldarro kula kulantay halkan waxaa hadda gool ugu leeyahay xulka gobolka ee sool ciyaaruhu maanta aad ayay u xiise badnaayeen jimco wanaagsan ayaan idinka soo leenahay garoonka kubadda cagta Miraawaar ee magaalada Garowe kulan kale oo ka tirsan heerka guruubyada ee koobka kubadda cagta gobolada Puntland tartanku sanadkan waa kii 8aad xulka gobolka bari ayaana taariikh ahaan ugu koob badan koobkan marka la ciyaarayo 4 mar iyaga ayaa ku guuleystay 7 koob ee hore ee la qabtay labadan xul ee haatan ciyaaraya ayaa 3 koob ee kalena ku kala guuleystay nugaal ayaa laba haysata soolna hal koob ayay qaaday qadka dhexe waa kan jaayo waa iftiiminaya qadka dhexe waa kan ciyaaryahan Thomas injineerka ayaa markaan farsamaynaya faawal ayuu ciyaaryahan Cumar ku galay saaxiibkiisa gobolka nugaal ama xidiga gobolka nugaal u ciyaaraya ee lagu magacaabo injineerka ayaa laga dhigay qaladkaasi xulka gobolka sool ayaa markaan tuuranaya ciyaaryahan tawakal kabtanka xulka gobolka sool saaxiibkiisa weerarka lambarka 22aad waa iska soo difaacday mar kale khubayb ayaa shabaqa beegsaday khubayb waa laga soo difaacay markaan xidigaha gobolka nugaal ayaa markaan iftiiminaysa khubayb ayaa cagta ku dhigay waa saaxiibadiisa ayuu la ciyaaray waa tan sool bartamaha garoonka sool cumar saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa kan tawakal kabtanka qalbi daafaca ah waa hagaag qalbi daafaca kabtanka ibraahin ayaa lambarka 22aad u xiran gobolka sool waa kan injineerka faawal ayaa laga dhigay ciyaaryahan Cumar lambarka 6aad ee gobolka sool ayaa qaladkaasi ku galay xidiga kabtanka u xiran kulankan xulka gobolka nugaal ninka lagu magacaabo injineerka waa hagaag ayaan la miisi lambarka 2aad ee gobolka nugaal ayaa tuuranaya ayaan la miisi ayaa tuuranaya kubadda laadka xorta ee loo dhigay xulka gobolka nugaal daqiiqadu 38 daqiiqo ayay marayaan ciyaartuna waa mid xiiso badan kulan kale oo ka tirsan koobka kubadda cagta gobolada Puntland gruubka ee xulalku waa gobolada nugaal iyo sool martigeliyaasha ayaa la ciyaaraya xulka ay dariska leeyihiin ee sool waa hagaag ayaan la miisi bannaanka ayuu mariyay fursadaasi wiilashii daraawiishta reer sool waxa ay markaan raadinayaan goolka barbaraha xidigaha caasimaduna goolka ay leeyihiin ayay isku dayeen inay difaacdaan iyagoo goolka kalsoonidana dadaal loo muujinaya sida ay ku keeni lahaayeen goolhayaha gobolka sool saaxiibkiisa daafac ayuu la ciyaaray yaxye bartamaha garoonka ayuu soo dhigay waa tan sool mar kale nugaal ayaa iska soo daafacday injineerka saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray kabtan tawakal ayaa sayiri goolkayga la ima dhaafo aniga ayaa halkan ay cabiran tahay waa hagaag qadka dhexe ayaa la miisi gobolka nugaal saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa kan ciyaaryahanka lagu magacaabo Bashiir Xaashi waxa uu la ciyaaray Ceelow waa iska soo saadhay sool ayaa qaad loo dhigay kadib markii ciyaaryahan Ceelow uu gaashaan qabsaday maaliyadda uu ku ciyaarayo waa hagaag daafaca gaashaan lambarka 2 ee gobolka sool ceelow ayaa kubadda bannaanka u saaray gacantuur ayuu samaynayaa xidiga lambarka 2 ee gobolka sool ninka lagu magacaabo cabdiqani saaxiibkiisa lambarka 6 Cumar ayuu la ciyaaray qadka dhexe
ninka lagu magacaabo Thomas ayaa la ciyaaray ceelow waa kan ceelow waa weerar ceelow ayaa weerara fursad cajiiba waa kan injineerka waa shuuday waa tahay markale fursad khatara booshka goolkiisa ayuu ka soo difaacay kubad khatara waa kan markale bile booshka ayaa soo difaacay waa kan jaayo ciyaaryahan jaayo ayaa loo dhigay faawal xulka gobolka Sool ayaa markaan soo tuuran doona weerar khatar ayay nugaal soo qaaday hase yeeshee ciyaaryahan boosh iyo kabtanka xulka gobolka Sool ninka lagu magacaabo Tawakal ayaa iska soo difaacaya weerarada halista uga imaanaya dhinaca nugaal kabtan Tawakal mar kale ayuu soo qaadi doona kubadda faawalka ee loo dhigay xulka gobolka Sool 41 daqiiqo qaybtii hore ciyaartu dhamaaday ku dhowdahay nugaal bilowgiiba hogaanka ayay qabatay ilaa haatan goolkeeda waa difaacanaysa waatan Sool kubadda ajiib ayay soo qaadeen xulka gobolka Sool ayaa loo dhigay kubadda laad ku xorta u dhow xarqan 18 waa meel khatara Jaamac Muuse ayaa qalad laga dhigay ciyaaryahanada xulka gobolka Sool waxa ay haystaan fursad ay ku barbarayn karaan ciyaarta ayay barbare ku soo celin karaan meel khatar ayaa loo dhigay kubad buluuseena lamarka 17 ninka mahad lagu magacaabo ayaa u taagan ciyaaryahanka lagu magacaabo mahad ayaa u taagan lamarka 17aad ee xulka gobolka Sool ma barbarayn doontaa ayaa la buufan shabaqisa meelaashan doona waa hagaag boosh ayaa isna kubadda dhiganaya boosh iyo mahad ayaa kubaddan tuuran doona midkood waa hagaag waa tahay mahad ayaa loo daayay mahad lambarka 17aad mahad fursad khatara goolhaye Buffon ayaa sida haada kubaddaasi ugu soo duulay isla markaana isku duubay waa hagaag 42 daqiiqo waqtigii bilowgay qaybta hore ee ciyaarta ama half time-kii hore ee ciyaarta ayaa haatan gabagaba ku dhow waatan soo bartamaha garoonka injineerka saaxiibkiisa Tawakal ayaa iska soo difaacay waa kan mar kale lambarka 13aad Carlos ayaa la ciyaaray saaxiibkiisa bile Carlos koorna ayay kubaddaasi u baxday gaashaan ayaana ka difaacday xidiga Carlos ee daafaca bidix uga ciyaaraya xulka gobolka Nugaal waa ciyaar kale oo xiiso badan oo ka tirsan gurbiyada koobka kubadda cagta ee gobolada Puntland 43 daqiiqo ayay haatan marayaan daqiiqaduhu 2 daqiiqo oo kaliya ayaa ka haray waqtigii ciyaarta ee qaybta hore waa tahay xulka gobolka Nugaal koorno ceelow ayaa tuuranaya ayaa kubad koornaa soo qaadaya ciyaaryahanka gobolka Nugaal ee weerarka ka ciyaaraya lambarka 11aad waa tan Nugaal Sool waa iska soo difaaceen bartamaha garoonka Nugaal waa kan ciyaaryahan Bashiir Xaashi saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa kan xulka gobolka Sool jaayo saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa ka gaashaan ayaa u tuuray xidiga lagu magacaabo Khubayb Jaamac Muuse ayaa iska soo saaray bartamaha garoonka jaayo waxa uu la ciyaaray ciyaaryahan gaashaan ayaa la ciyaaray mahad xulka gobolka Sool qadka dhexe ayay ku xariiftamayaan lambarka 33aad Coonde waa kan kubadda dhaadheer ayuu la ciyaaraya booshka hase yeeshee xidiga ceelow ayaa dib u soo celiyay kubaddaasi ayaa la miisi bartamaha garoonka waa tan mar kale xulka gobolka Sool jaayo lambarka 5aad ee xulka gobolka Sool waa kan Khubayb Jaamac Muuse ayaa ka difaacay fursadaasi halista wali waa tahay kubaddaasi koorna ayay u baxday ciyaaryahan Khubayb ayaa isku dayay inuu soo qaado kubad dhinaca goolka xulka gobolka Nugaal hase yeeshee Jaamac Dheere waa uu diiday in kubaddu ay u dhaaftay dhinaca gooshiisa koorna ayaa markan la soo qaadi doonaa xulka gobolka Sool kubad koorna ayay soo qaadi doonaan waa mid ka mid ah fursadoodii ugu dambeeyay maadaama qaybta hore ciyaartu ay dhammaan tahay 45 daqiiqo hore ayaa haatan lagu jiraa daqiiqadii ugu dambeysay koorna ayay soo qaadayaan Sool ayaa koorna soo qaadaysa waa ay soo qaadeen ciyaaryahanada gobolka Sool waa iska soo saareen qalad ayaase loo dhigay ciyaaryahanka xulka gobolka Nugaal ee daafaca ka ciyaaraya Jaamac Muuse ayuu garsooru tilmaamaya in la riixay dhulka ayuu yaalaa dhaawac ayuu ka cabanayaa garsoor xaaladda xidiga ayuu qiimeynaya Jaamac Muuse waa ciyaaryahan qalbi daafaca oo daafaca dhexe u maamula xulka gobolka ee Nugaal garsoor kooxda caafimaadka ayuu ugu yeeray ciyaaryahan Jaamac Muuse inuu waxba noqonayaan u rajeynaa ciyaartan uu sii wato waa mid ka mid ah xidigaha aadka ugu fiican dhinaca daafaca dhexe xulka Puntland ayuu ku soo matalay tartamada dowlad goboleedyada ee Soomaaliya Jaamac Muuse kooxda caafimaadku xaaladiisa ay la tacaalayaan
faawul ayaa lagu galay xidiga ka tirsan xulka gobolka nugaal saaxiibadiisa uu ka mid yahay Thomas ayaa qiimeynaya ama ag taagan saaxiibkooda si ay u ogaadaan waxa uu dareemayo kubadda cagtu waa xushmad 45 daqiiqo ugu horeeyay waa ay dhamaatay waxaana sugnaaba waa daqiiqadaha dheeriga ee ciyaarta lagu daro waa ciyaar kale oo xiiso badan gruubka E kooxda kubadda cagta ee gobolada Puntland 4 daqiiqo ayaa lagu daray ciyaarta 4 daqiiqo oo dheeriya ayaa lagu daray maadaama ay dhammaadeen daqiiqadihii caadiga ahaa ee 45 daqiiqo ee hore waa kulan kale oo xiiso badan koobka kubadda cagta gobolada Puntland waa kan ciyaaryahan ceelow sool ceelow nugaal ciyaaryahanka lagu magacaabo bile saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray injineerka waa kan ceelow xulka gobolka nugaal ayaa weerara waa kan ceelow gaashaan ayaa hortaagan gaashaan waa ka difaacday gaashaan lambarka labaad ee xulka gobolka sool saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray jaayo mar kale gaashaan fursad cajiiba saaxiibkiisa ayuu u celiyay waa kan boosh kubaddaasi waa ay iska saareen ciyaaryahanada xulka gobolka nugaal xidiga lambarka saddexaad bile ayaa kubaddaasi bannaanka iskaga saaray gacantuur ayay samaynayaan xidigaha gobolka sool ciyaaryahan gaashaan lambarka labaad saaxiibkiisa jaaya ayuu u tuuray jaaya faawul ayaa lagu galay waa xidig farsamo cajiiba leh jaayo lambarka shanaad lambarkii ciyaaryahankii weynaa ee xulka Puntland iyo gobolka sool cabdisalaan faarax jaamac dhiidhiyo ee lambarkiisii shanaad ayuu ku labisan yahay taasi waxa ay ku tusaysaa tayadiisa ciyaaryahan jaayo waa hagaag xulka gobolka sool jaayo xulka gobolka sool ayaa kubadda faawulka lagu galay jaaya soo qaadanaya isla jaaya ayaa kubadda qaadi doona xidigaha sool madax ayay wada raadsan doonaan si ay gool ugu bedelaan ciyaartana barbaro ugu soo celiyaan jaaya waa u qaadayaa jaaya waa u soo qaaday fursad khatara bannaanka ayay kubaddaasi martay waa hagaag saaxiibadiisa daafacyada xidigaha madaxa isku diyaarinayay waxay ku canaanayaan inuu kubadda kor u qaaday isaguna waxa uu leeyahay kubad beelka sidiisa u soo go'aysa ayaan soo qaaday hase yeeshee dabeesha ayaa kor iga marisay waa hagaag ciyaartu aad ayay u xiiso badan tahay 45 daqiiqo kulan kale oo ka tirsan heerka gurubyada ee kooxda kubadda cagta gobolada Puntland daqiiqadii dheeriga ahaa 4 daqiiqo ahaa laba ka mid ah ayaa tagay 2 daqiiqo ayaa ka haray qaybta hore ee ciyaarta ciyaar kale oo aad u xiiso badan xulka gobolka nugaal ayaa haatan soo bilaabay bartamaha garoonka half time-kii ayuu yeeriyey garsooruhu waa hagaag waxaan sugnaaba waa qaybta dambe ee ciyaarta 1-0 nugaal ayaa ku warkacaysa taageerayaasha caasimaddu awlaadii caasimaddu waxay u dabaaldegayaan goolka ay leeyihiin xidigahoodana waa ay dhiirigelinayaan maxamed rasaas aad baa umahadsan tahay cabdirasaaq taki daawadayaal waxaa intaasi ku soo gabagabowday qaybtii hore ee ciyaarta xiisaha ee u dhaxaysa gobolada sool iyo nugaal 1-0 ayaa xulka gobolka nugaal ciyaartan qaybtii hore ay ku hogaaminayaan 1-0 ayaa ciyaartooyda xulka gobolka nugaal ciyaartani ay ku hogaaminayaan tani waxa ay fursad u tahay nugaal oo haatan sidan waxay ku leeyihiin 6 dhibcood 6daasi dhibcood ayayna ku hogaamin doonaan gruubka E oo ay ku wada jiraan gobolada sool nugaal bari highland iyo sidoo kale gobolka sanaag daawadayaal ciyaartani waa mid ka xiiso badan waa mid ka mid ah kuwa ugu xamaasada badan ee tartanka labada gobol ee daraawiishta nugaal iyo soolba waxaa astaan u ah fardihii waa xaasaldhigyo ku leh daraawiishtii gumaysada dirirka ayl iyo taraax maanta waa iswajahayaan waa tahay hase yeeshee gobolka nugaal si aada waxaa looga jecel yahay aadna loogu naanaysa riyaha waa tahay gobolka sool dhankiisa oo fardaha lagu inta badan lagu tilmaamo fardihii galabta gool ayaa lagu leeyahay ma iska soo barbarayn doonaan wakhtiga ayaa sheegi doona nugaal iyo sool galabta waxay ciyaarayaan sool waa ciyaarteedii labaad ee heerka gurubyada halka nugaalna ay ciyaarayso ciyaarteedii saddexaad ee heerka gurubyada nugaal sanaag oo qura ayaa u harsan sidaan hadda haddii ay ciyaarta ku dhammaato nugaal waxay yeelan doontaa 6 dhibcood
halka gobolka soolna uu taagnaanayo halkii dhibic oo ay ka heleen dhigooda gobolka sanaag cayaartii furitaankooda tartanka oo barbaro 4-4 ay la galeen cayaartooyda xulka gobolka nugaal macalinka hogaaminaya xulka gobolka nugaal oo mid ka mid ah macallimiinta ugu khibradda badan kubadda cagta Puntland waxa uu safkiisa maanta ku soo bilaabay Ceelow oo la marka kooxtooraad u xiran xulka gobolka nugaal haatan afka hore ayuu ka dheelaya xulka gobolka nugaal gooshaasi waxa uu saxeexay laacibkaada daafaca dambe ee xulka gobolka nugaal Bashka Xaashe kaasi oo goosha waardiyaha uu ka yahay goolhaye Siciid meel ka baxsan ee diilinta 18 ama xirada ganaaxa ka soo toogtay isla markaasina shabaqa gool qurux badan ka geliyay baalaha soke taasi waxa ay xulkiisa ay ka caawisay inay qaybtii horeba ama daqiiqadii saddexaadba hogaanka ciyaarta ay la wareegaan oo ay taageerayaasha xulka gobolka nugaalna ay u dabaaldegaan farqiga goolasha haatan ciyaarta ay ku hogaaminayaan waqtiga dambe ayaa laga wada sugayaa markan saan hore idinku sheegnay waa waqtigii tababarayaasha bedelada ay sameeyaan ayaa wax ka kala bedeli doona ama saameyn ku yeelan doona ciyaartan sool iyo macallinkoodu haatan way soo canaananayaan way soo dardaarmayaan way soo dhiirigelinayaan waxa ayna ku soo ballamayaan in ay farqiga goolkaasi ay iska soo yarayaan barbaro la yimaadaan guushiina ay raadiyaan nugaal dhankeeda waxay ku dadaalayaan oo ay ku tashanayaan sidii ay goosha u sii dheeraysan lahaayeen waa kan macalinka xulka gobolka nugaal oo ciyaartooydiisa la dardaarmaya isla markaasina safka line upka ku jira garoonka dhiirigelin ayuu u muujinayaa halka macalinka gobolka soolna uu sidaasoo kale uu balaayirintiisa la dardaarmayo oo uu dhiirigelin soo siinayo iyo wax ka beddelka saxda uu samaynayo waa tahay garoonku waa Miraha Waare Stadium magaalada Garowe caasimadda Puntland ciyaartu waa Sool iyo Nugaal natiijadu waa 1-1 haafkii dambe ayaa haatan la soo gali doonaa oo waqtigii nasashada ayaa markan lagu maqan yahay waqtiga nasashada ayaa markan lagu maqan yahay wada hadda nagu soo biirtay Puntland TV ayaa si toos ah nogala socotaa ciyaartuna waa gobolada Sool iyo Nugaal cabdirasaaq taki oo tacliiqinta igula jiray taki bal markaad qiimeyn ku samayno fursadihii ay abuureen labada dhan yaad isleedahay ee dhanka fursadihii ugu cajiibsanaa ama ugu badnaa ay sameeyeen maxamed saas waa maasan tahay dabcan dhinaca fursadaha iyo weerarka qaybtan hore ee ciyaarta nugaal ayaa ku badnayd oo aad mararka qaarkood u booqanaysay gobolka xulka gobolka Sool hase yeeshee dhinaca qadka dhexe ayaa aad ugu wanaagsan yihiin iyo daafacashada xidigaha gobolka Sool oo qadka dhexe oo kale marka aad fiiriso waxa aad u iftiiminayay xidigaha qadka dhexe ninka lagu magacaabo Jaaya iyo Booshka daafacyada waxa aad u muuqday qaybtan ciyaaryahanka kabtanka ninka lagu magacaabo Tawakal iyo lambarka saddexaad oo isaga difaaca gudaha ku midaysan Yaxye waxa sidoo kale aad ciyaartan uga muuqanayay ciyaaryahan gaashaan oo lambarka labaad xiran dhinaca weerarka xulka gobolka Sool ninka kaliya ee muuqanaya oo khataraha kaga imaanaya xulka gobolka Nugaal waxa uu ahaa ciyaaryahan Khubayb waxaan ogeyn inuu gool dhaliyay ciyaartii gobolka Sanaag ay 4-4 la gashay Sool haatan xulka gobolka Nugaal waxa ay soo diyaarinayaan in qaybta dambe ee ciyaarta ay bedel ku keenaan xidigoodii khatarta badnaa ee Naani halka tabaha xulka gobolka Soolna isaguna uu bedelaysa ciyaarta wax ka bedeli doona diyaarsanayo marka waxa aynu sugnaaba waa qaybta dambe oo la yiraahdo waa qaybta tababarayaashu ay ciyaaraan bedelka iyo maskaxda ay isticmaalaan iyo sida ay u kala fahmaan dhaliilaha shaxaha oo dhex hoganaya qaybta hore ee ciyaarta ayay ku xiran tahay cid guuleysanaysa inkastoo ciyaarta haatan ay Nugaal horkacayso haddana wax walba ayaa kubadda cagta iska bedeli kara
goolal ayay keensan kartaa sool waa ay barajeyn kartaa hadday rabto waa ay badin kartaa halka ay macquul tahayba sidoo kale taaka wax ka badan ay dhacaan oo ah in ay nugaali goolasha sii badsato xilli horeba ninka la yiraahdo maxamarsaas waxaa taagan bedel haafkiiba hore ayaa lagaga soo tuurayaa xidiga naani ceelow ayaa baxay ceelow oo lambarka 12 ayaa baxay naani ayaana xilli horeba hore ka soo galay taasi waxay ku tusaysaa in nugaal ay xilli horeba bedelkeeda sii boobsiisanayso waxay doonayaan inay goolka kalsoonida xilli horeba dhashadaan xulka gobolka nugaal haatan hogaanka ayay hayaan dagaalkooda ugu weyni waa in ay hogaanka baaqa ku sii ahaadaan saddexdooda dhibcood qaataan laakiin sool ayaduna arrintooda lama yaraysan karo guushii ugu horreysay ee tartanka ayay raadinayaan marka loo fiiriyo xoogga guushooda ugu horreeyay raadinayay oo ay Highland la mid tahay wax walba laga filan karaa waayo waa ciyaaryahanno is soo dhaarsaday isla markaana ku dadaalay inay wax un sameeyaan hadda waxaan sugnaaba waxaa baxaya ciyaaryahanka lagu magacaabo ceelow naani ayaa garoonka soo galaya ciyaarta qaybtii dambe ayaana dib u bilaabanaysa ceelow waa u baxay naanina waa uu soo galay lambarka 17aad ee xulka gobolka nugaal ninka lagu magacaabo naani maxamed naani marka aan dadka xasuusino intii aan xogtiisa ama aan daawayn bandhigiisa kulankii hore kulankii Highland ayuu bedel ku soo galay gool waa uu dhaliyay goolna waa uu caawiyay waa ciyaaryahan aad xariif u ah isla markaana garabka aad uga soo ceyriyay kubadda qaybtii dambe ee ciyaartu waa ay bilaabatay mahad oo ka tirsan gobolka sool ayaa haatan weerar abuuraya mahad lambar 17aad ee gobolka soolway aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdirasaaq taki daawadayaal haatan waxaa la isugu soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaartan xiisaha leh ee dhex maraysa gobolada nugaal iyo sool waa haliye eber nugaal waxa ay ku hogaaminaysaa ciyaarta haliye eber kadib markii daqiiqadii saddexaadba uu hogaanka u dhiibay daafacooda dambe garabka midigna ku lagu magacaabo bashka xaashi waa tahay ciyaar xiisa badan ayaa halka galabta ku dhex maraysa gobolada nugaal iyo sidoo kale sool waa kaas ninka lagu magacaabo gaashaan kubadaasi waa uu soo laagay waa yahay jaamac dheere kubad madaxa ayuu ku dhuftay saaxiibkiisa buufan ayuu dib ugu celiyay waa tahay buufan diida ayuu markan u baasay diida gobolka nugaal waa tahay sool weerar kubad cajiiba ayuu badbaadiyey goolhayaha gobolka nugaal ninka lagu magacaabo buufan sool waxay ku dhawaatay inay soo barbarayso gooshaasi mahadoo lambarka 17aad u xulan xulka gobolka sool ayaa fursadaasi ka khasaariyey xulkiisa gobolka sool taasi oo ahayd khalad ay sameeyeen daafacyada ciyaartooyda xulka gobolka nugaal waxay ahayd khalad uu ku khaladkaasi ay galeen daafacyada xulka gobolka nugaal hase yeeshee buufan ayaa badbaadin cajiiba sameeyey waa tahay kubaddu markaan waxa ay ka soo bilaabanaysaa garabka dambe ee daafaca xulka gobolka nugaal ayaa markan foor gacan sameynaya foor tuurasha ayay markan sameynayaan carlos ayaa marka kubadda tuuraya carlos daafaca dambe ee dhanka bidix ee xulka gobolka nugaal waatay waxa uu soo tuuray saaxiibkiisa naani bedel hadda ku soo galay ciyaarta Chayo ayaa kubadda ku hardamaya foul ayuu ku galay naani Chayo oo marka salaad u xulka gobolka ee sool ayaa markan loo dhigay foul laadka horta ayaa markan ay laabanayaan ciyaartooyda xulka gobolka sool oo raadin ugu jiray baadigood barbareynta gooshani ciyaarta qaybta horeba loogu hormaray waa yahay kabtan Tawakkal ayaa markan kubadda soo laagaya kabtan Tawakkal kabtanka xulka gobolka sool Tawakkal kubaddaasi laadar ayuu soo laaday dilinta garaaxaya markan ku dhex jirta waa tahay halis oo banaanka ay kubaddaasi ka martay ciyaartooyda xulka gobolka sool oo fursadaasi kama aysan faa'iido ciyaartooyda xulka gobolka nugaal daafacyadooda feejigna dheeri ay markan ku jiraan waxa ay ku dagaalamayaan sidii ay u difaacan lahaayeen goosha isla markaasina hogaanka ay isku dheeraysan lahaayeen waa kuwa ciyaartooyda xulka gobolka mahad injineerka weerar oo waa uu soo celiyay goolhaya Saciid waardiyaha shabaqa xulka gobolka ee sool kubadda halisa madaxa ayuu ka cabanayaa Chayo lambarka 9aad ee xulka gobolka sool aana mishiinka qadka dhexe xulka gobolka ciyaartani waa tahay Chayo waxaan rajaynaynaa in xaaladiisa caafimaad ay dib u soo laabato haya Cabdirasaaq
waa tahay lamarka afraad xulka gobolka sool ahna kabtanka xulka Tawakal ninka lagu magacaabo ayaa kubadani markan uu diyaarsan oo laadaya waa tahay Tawakal laadeer ayuu kubadaasi soo laaday Tawakal diida waa iska soo saaray waa kan naani lamarka toddobaad xulka gobolka nugaal injineerka ayuu kubadaadeer u laaday Tawakal iyo injineerka oo Tawakal kubadaasi waa uu soo celiyay kubadaasi Tawakal waa uu iska soo saaray mar kale Carlos waa iska saaray daafaca xulka gobolka sool gaashaan lamarka labaad xulka gobolka sool ayaa kubadaasi banaanka u saaray fooro gacan ayay markaa soo turanayaan xulka gobolka nugaal Carlos ayaa markan u diyaaran fargacantaasi inuu soo sameeyo Carlos wala marka 9 xulka gobolka waa daafaca dambe bidix ee gobolka nugaal waa tahay hal iyo barayeen natiijada ku hogaaminayaan ciyaartoyda xulka gobolka nugaal waa yahay khadka dhexe ayaa markan kubadda marsa Messi waxa uu baasay saaxiibkiisa Nane hase yeeshee Nane kubaddaasi waa lagala soo haray waa kan Yahya waxa uu soo ciyaaray saaxiibkiisa Mahad hase yeeshee ma aysan gaarin oo waxaa kubaddaasi soo celiyay Carlos bila ayuu la soo ciyaaray bila khadka dhexe ayuu markan ku hardamaya waa tahay waa kan ninka lagu magacaabo xulka gobolka sool ninka lagu magacaabo Mahad waxa uu la ciyaaray saaxiibkiisa khadka dhexe Jaya Tiki Taka Sool kubaddaasi waa ka soo badbaadiyay ciyaartoyda xulka gobolka nugaal waa tahay mar kale sool ayaa kubadda haatan cagta ku haya Onde lamarka 33 xulka gobolka sool saaxiibkiisa Umar ayuu la soo ciyaaray foul ayaa lagu galay ciyaartoyda xulka gobolka sool ninka Mahad lagu magacaabo waa tahay laadka xorta ay markan sameeyaan ciyaartoyda xulka gobolka sool ayaa markan sameynaysa kubad tuurasho waxaa dhulka yaala Mahad oo lamarka toonaad u xiran lugta ayuu ka caawinayaa in wax ka soo gaareen kadib markii uu khalad ku galay mid ka mid ah ciyaartoyda xulka gobolka nugaal garoonka Mirawar Stadium magaalada Garowe caasimadda Puntland maanta uu buuxaa gobolka nugaal ciyaartoyda labaad ayay maanta halkan ciyaartoyda saddexaad ayay maanta halkan ku dheelayaan waxa ay leeyihiin natiijo hal iyo bara 6 dhibcood ay siin hogaanka gruubka ugu hayaan taageerayaasha gobolka ee ku dhaqan caasimadda Puntland ee Garowe iyo kuwa ka daawanaya warbaahinta qaybada kala duwan waxay maanka ku hayaan sida ay muhiimka u tahay guushani sida ay muhiimka u tahay saddexda dhibcood ee baahida ay u qabaan nugaal haddii rabto tareenka inay raacdo waa inay gooshani difaacataa kuwa kale raadisaa sool haddii ay rabto inay tareenka iyadu dhankeeda qabsato waa inay gooshani soo barbaraysaa guulna ay raadisaa yaa halkan kala tegi doona weji gabax yaa farxi doona yaa xanaaqi doona yaa murugoon doona waqtiga ayaa sheegi doona Tawakal kabtanka xulka gobolka sool ayaa markan kubadda u diyaarsan garsooraha ayaa markan ciyaarta dib u bilaabaya Tawakal kabtanka xulka gobolka sool ayaa markan kubadda soo laagaya kabtanka xulka gobolka sool Tawakal laadeer ayuu soo dhigay daafaca dambe xulka gobolka nugaal hase yeeshee gool haye Buufan ayaa kubaddaasi gacanta ku dhigaya Buufan saaxiibadiisa ayuu markan kubadda la wadaagaya laadeer ayuu soo dhigay khadka dhexe garoonka Mirawar Stadium magaalada Garowe Puntland waa tahay Tayo Nane injineerka ayaa kubaddaasi iyo Nane ayaa sidoo kale kubaddan Nane baa markan kubadda cagta ku haya Nane laadeer ayuu la wadaagay saaxiibkiisa ayaa la Messi ayaa aridaaday Mahad ayuu kubaddaasi la wadaagay waa tahay sool waa iska soo difaacay kubaddaasi mar kale ciyaartoyda xulka gobolka sool ayaa kubaddaasi iska soo difaacay waa tahay ayaa la Messi waa kan Messi saaxiibkiisa Bashka waa kan ciyaartoyda xulka gobolka sool kubaddaasi waa iska soo difaaceen waa kan Tayo lamarka sanaad xulka gobolka sool saaxiibkiisa Bashka ayuu kubaddaasi la wadaagay Bashka ayaa xarakeynaya markuu kubadda khadka dhexe ciyaarta waa tahay Tawakal ayuu la wadaagay daafaca dambe xulka gobolka sool ahna kabtanka xulka waa tahay kubaddaasi banaanka ayay u baxday forturasha ayuu soo sameeyaa Ondo ah lamarka 33 xulka gobolka sool saaxiibkiisa waxa uu la wadaagay ninka lagu magacaabo Tawakal sida waxa uu celiyay Mahad khalad ayuu ku galay ayaa la Messi ninka lagu magacaabo Mahad oo ka tirsan ciyaartoyda xulka gobolka sool waa tahay khalad ayuu ku galay ninka Mahad lagu magacaabo
oo ka tirsan ciyaartooyda xulka gobolka nugaal ayaa la meesi ayaa markan kaarka digniinta la siiyey ee ganaaxa waa tahay ciyaartu dib ayaa markan u bilaabanaysaa laacibkaasina waxaan u rajaynaynaa in uu ka soo kabto dhaawacaasi oo ciyaarta uu dib u sii wato waa mahad oo la markaa 17aad u xidhan xulka gobolka sool ayuu u xidhan yahay lamarka 17aad waa tahay ciyaartan xamaasadeeda iyo xiiseeda aad bay u kulushahay taageerayaasha gobolka taageerayaasha caasimadda ee ku dhaqan miro awaare maantana ku sugan waxay dhigayaan wacdaro waxay dhiirigelinayaan 11 laacib ee garoonka ku matalaya nugaal waxay la garab taagan yihiin erayo dhiirigelina ayay halkan kula garab taagan yihiin ciyaartooyda ku matalisa kubadda cagta ee tartanka gobolada puntland waayahay tawakal ayaa soo bilaabaya kubadda kabtanka xulka gobolka sool daqiiqadii 54 ayay qaybta dambe ciyaartu maraysaa waqtiga daawadayaal daqiiqadii 54 ayay haatan maraysaa sulmaaka tawakal laadeer ayuu kubaddaasi soo gaarsiiyey saaxiibada afka hore weerarka hase yeeshee goolhaya buufan ayay kubaddaasi si sahla ugu tagtay buufan ayaa markan kubadda gacanta ku haya buufan saaxiibkiisa jaamac dheer ayuu kubadda la ciyaaray jaamac muuse saaxiibkiisa wuxuu la ciyaaray Thomas wuxuu la ciyaaray diida lamarka 18 xulka gobolka ee nugaal bile ayuu markaa kubadda la wadaagay khubayb ayaa kubaddaasi kala soo wareegay markan coondhe ayuu u baasay coondhe waxa uu la dheer u tuuray saaxiibkiisa ibraahim sagaalka xulka gobolka ee nugaal waa tahay Carlos ayaa kubaddaasi uu cagta ku haya Carlos lamarka 3aad ee daafaca xulka gobolka ee nugaal waayahay markan kubadda waxa ay lagu hardamayaa garoonka qaybta midig waa tahay faul ayaa laga dhigay xulka gobolka nugaal oo ay soo baasteen sool waayahay mar kale ayaa injineerka loo dhigay dhankooda faul injineerka kabtanka xulka gobolka nugaal injineerka ninka lagu magacaabo ayaa kubaddaasi faul loo dhigay waa kan bashka xaashi saaxiibkiisa ayuu dabcan inuu soo celiyay hase yeeshee jaayo ayaa dhexda ka qabsaday kubaddaasi jaayo waa tahay bashka xaashi bannaanka ayuu isaga saaray kubaddaasi waa tahay ninka lagu magacaabo coondhe ayaa markan kubad tuurasho soo samaynaya coondhe saaxiibkiisa khubayb ayuu kubaddaasi u tuuray hase yeeshee Thomas ayaa kubaddaasi ka soo daafacay lamarka 6aad xulka gobolka sool waa tahay sool waatana gacan ayaa laga dhigay ibraahim oo ah lambarka 22aad ee xulka gobolka sool waa weeraryahanka gobolka sool afka hore uga dheelaya Carlos ayaa markan kubadda cagta ku haya bedel ayaa taagan oo lamarka 10aad ee xulka gobolka nugaal ayaa bedel u taagan oo mar dhow ciyaarta soo galaya waa tahay garsoor ayaa ka warsuganaa xilliga uu ogolaado bedelkaasi haatan waxaa kubadda cagta ku haya xulka gobolka sool booshka saaxiibkiisa khubayb ayuu soo waagay laakiin bashka xashi ayaa yidhi maya waa tahay waa taso nugaal meesi عمر دheere waxa uu qaatay kaarka digniinta lambarka 6aad ayuu u xidhay xulka gobolka sool kadib markii uu ganaax ku kacay ninka lagu magacaabo ayaa la Messi waa la bedelay oo waxa haatan ciyaarta soo galaya lambarka 10aad ee xulka gobolka nugaal lamarka 10aad xulka gobolka nugaal ayaa la Messi taageerada badan uu ku leeyahay garoonka Mirawaara caasimadda Puntland ee Garowe waa tahay waayahay khaladkaasi waxaa laabanaya oo faawlkaasi loo dhigay xulka gobolka nugaal waaya jaamac dheer ayaa marka kubadda diyaara jaamac muusa qalbi daafaca xulka gobolka nugaal waa mid ka mid ah daafacyada Puntland ku matalayay tartankii dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya ku soo gabagaboobay dhawaan haatan gobolka nugaal ayuu u taagan yahay lambarka 5aad ee xulka daafaca dambe xulka gobolka waaya ciyaartu waa hal yeeber nugaal ayaa markan ku hogaaminaysa hal yeeber dhigooda gobolka sool wiilasha fardaha wiilasha daraawiishta xaaladdu markan waa ku xuntahay gool ayaa laga sugayaa taageerayaasha gobolka ee ku sugan daafaha dunidu waxa ay ka sugayaan wiilasha ku matalaya gobolka ee garoonka ku jira inay ka farxiyaan oo ay gooshaasi looga hormaray ay ka soo barbareeyaan waa tahay faul ayaa laga dhigay ibraahim oo ah
lambarka labaatanaad xulka gobolka sool bila ayaa markan kubadda saaxiibkiisa carlos la wadaagay carlos ayaa markan kubadda jiidaya waa tahay carlos ayaa markan kubadda jiidaya carlos waa tahay yaxya ayaa kubaddaasi iska soo daafacay waa daafaca booshka ayaa markan kubadda cagta ku haya booshka lambarka sideedaad xulka gobolka sool maharad ayuu dabcaynu sameeyay hase yeeshee naani ayaa yidhi waa maya khalad ayaa lagu galay booshka oo ah lambarka sideedaad ee xulka gobolka sool bedel ayuu sameynayaa macalinka xulka gobolka sool lambarka 17aad ayaa garoonka laga saaray haatanna waxaa soo galaya lambarka 9aad lambarka 17aad mahad ayaa u hurnaa xulka gobolka sool oo haatan ayarta laga saaray lambarka 9aad ayaa soo galay ee xulka gobolka sool tawakal ayaa marka kubaddaasi u diyaaro soo laadaya reer sool waxay rajo ka sugayaan balaayirinta halkan ku matalaysa waxay la wada eegayaa wakhtigan ka harsan in ay iska soo barbareeyaan gooshaasi looga hormaray bareejo ayay raadinayaan sool halka dhigooda nugaal ay sugayaan hogaaminta cayaarta inay sii dheeraystaan waa tahay macalinku waxa uu soo xoojiyey xagga afka hore maadaama uu goolar raadinayo waa tahay garsuuraha cayaarta dhexdhexaadinaya waxa uu u digayaa laacibiinta gobolka sool iyo nugaal in ay xaaladda dejiyaan markan oo kale badana balaayirintu waa isxifaaliyaan funaanadaha la isqabsadaa waa la isku dhigdhigaa waa la isgarbiyaa marka waxa uu leeyahay xaaladda dejiya sidoo kale macalin garsooruhu waxa uu dib u celiyey balaayirkii bedelka ku soo galay lambarka 9aad xulka gobolka sool wuxuu leeyahay markaan uu ku ogolaado garoonka soo gal waa tahay sool kubaddaasi waa ay soo laabeen coondha ayaa kubaddaasi madaxeeyey dib ay isaga celiyeen ciyaartooyda xulka gobolka ee nugaal mar kale weerar ayay soo qaadeen xulka gobolka sool waa tahay waaya ciyaartooyda xulka gobolka ee nugaal kubaddaasi bannaanka ayay isaga saareen daafacyada xulka gobolka ee nugaal ayaa markan sameynaya khalad ayaa loo dhigay ciyaartooyda xulka gobolka nugaal oo markan kubadda soo laaganaya bedel kale ayuu sameynayaa macalinka xulka gobolka ee sool lambarka 11aad ayaa cayaarta soo gelaya waxaa la saaray jaayo oo ah lambarka 9aad ee xulka gobolka sool oo waa mid ka mid ah mashiinka khadka dhexe ee xulka gobolka oo timaarsaasoo jaayo ayaa baxay waxaa soo galay ciyaaryahan ugaaska lambarkii 9aad ee xulka gobolka sool ee soo galayna waxaa lagu magacaabaa ciyaaryahan cabdixakiim BBC waa hagaag xidigaha gobolka sool lambarka 5aad ayaa baxay ciyaaryahan ugaaska oo lambarka 11aad xiran ayaa garoonka soo galay tababar waxa uu sameeyay laba bedelo degdega si uu goolka lagu leeyahay isaga keeno waa tahay xulka gobolka nugaal ayaa cagta ku haysa kubadda nugaal ayaa cagta ku haysa waa kan ciyaaryahan bile saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray xidigaha nugaal ayaa weli weerara waa tan nugaal fursad khatara uu goolhayaha gobolka sool ayaa iska soo badbaadiyey goolhayaha gobolka sool siciid ayaa kubadda iska soo badbaadiyey bartamaha garoonka ayaa haatan taallaa waa kan ciyaaryahan ugaaska gobolka sool faawal ayaa lagu galay ciyaaryahan ugaaska توماس oo ka tirsan gobolka nugaal ayaa faawalkaasi galay توماس oo gobolka nugaal ka tirsan ayaa faawalkaasi u galay ciyaaryahanka lagu magacaabo ugaaska kabtan tawakal ayaa bilaabaya markan bartamaha garoonka ayuu ka qaadayaa waqtigu waa socdaa 62 daqiiqo hal gool oo daqiiqadii ugu horeeyay laga dhaliyay ayaa lagu leeyahay xidigaha gobolka sool xidigaha daraawiishta gobolka daraawiishta ka socda waa tahay banaanka ayuu saaray ciyaaryahanka lagu magacaabo tawakal kabtan ku raali gelin ayuu ka bixinayaa kubadda uu qasaariyay waa hagaag xidigaha gobolka sool waxay u dagaalamayaan inay keenaan goolka barbaraha nugaalna waxay haatan isku dayaysaa inay ilaashato dhibcaha ay haatan ku warkacaysa gruubka ee 6 dhibcooda haddii ay badiso ayaa hoggaanka baaqay ku sii ahaan doona haddiise goolkan laga keeno bari ayay hoggaanka la qaban doonaan waa hagaag waa tahay bartamaha garoonka ayaa lagu dagaalamayaa waa tahay xulka gobolka ee nugaal tabro waxa uu bedelay ayaa la Messi oo lagu bedelay lambarka 10aad Cabdullaahi Messi ayaa Messi lagu bedelay haatan lambarka 23aad ee xulka gobolka nugaal ayaa bedel u taagan lambarka 23aad xulka gobolka nugaal ayuu haatan tabaraha gobolka nugaal ina bedel ku keenaya lambarka 23aad ee gobolka nugaal ayaa soo galaya lambarka 7aad mahad ayaa baxaya lambarka 7aad ee gobolka nugaal ayaa baxaya
lambarka 23aadna waa uu soo gelayaa waa hagaag lambarka 7 ee xulka gobolka Nugaal xidiga garabka ka ciyaaraya kulankii horena goolka u dhaliyay xulka gobolkan ninka lagu magacaabo Mahad ayaa haatan bedel ku baxaya saaxiibkiisa lambarka 23aad ayaa lagu bedelay ciyaartu waa 1-eber 63 daqiiqo gobolka Nugaal ayaa hogaaminaya ciyaarta bartamaha garoonka xulka gobolka Sool ninka lagu magacaabo Boosh ayaa laga dhigay foul ciyaaryahan Boosh lambarka 8 ee gobolka Sool ciyaartu waa mid kale oo xiiso badan waxa uu foulkaas ku galay cidiga lambarka 10 ee gobolka Nugaal ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Miisi bedel ayuu ku soo galay waxa lagu bedelay ciyaaryahanka kale ayaan la Miisi oo lambarka 2 xirnaa waa hagaag markan waxaa soo tuuranaya calaamada gobolka Sool ayaa kubadaasi tuurtay waa tahay Sool waa weerar Khubayb ciyaaryahan Jaamac Muuse ayaa kubada banaanka isaga saaray gacantuur ayay sameyn doonaan xidigaha gobolka Sool waa tahay Sool gacantuur ayay soo sameeyeen waa ka Thomas saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray Nugaal ayaa weerara xidigaha gobolka Nugaal waa tan mar kale Nugaal injineerka qadka dhexe garoonka injineerka saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa ka Naani lambarka 17aad Naani farsamo cajiiba injineerka ayuu la ciyaaray injineerka saaxiibkiisa Cabdullaahi Miisi waa shuuday waa iska soo difaaceen xidigaha Sool waa tamarka Sool xidiga lagu magacaabo Cabdixakiim BBC saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray foul ayaa lagu galay Booshka garoonka ayuu iftiiminayaa bartamaha garoonka Thomas ayaa jaala ku qaatay ciyaaryahan Thomas kaarka digniinta ee jaalaha ayuu qaatay waa hagaag xulka gobolka ee Sool kabtankooda ninka lagu magacaabo kabtan Tawakal ayaa haatan kubadaasi tuuranaya Sool waqtigu waa ku socdaa daqiiqad walba oo dhinaca dhamaadka aadahay Sool waa u geeri xidigaha gobolka Sool waa ay soo qaadeen kabtanku garoonka bartamaha goolka meesha ku aadan ayuu soo dhigay hase yeeshee kubadaasi waa ka soo saartay Nugaal markale Nugaal ayaa soo bilaabanaysa xidigaha gobolka Nugaal ayaa markan soo bilaaban doona ciyaartu waa mid xiiso badan bilowga ciyaartaba haddii haatan lagu soo biirtay waxa uu gobolka Nugaal hoggaanka ciyaarta u dhiibay xidiga daafaca garabka ka ciyaara ninka lagu magacaabo Bashiir Xaashi bartamaha garoonka injineerka goolka ayuu toogtay birta injineerka lambarka 23aad ee xulka Nugaal ayaa birta toogtay birta ayaa ka beenisay goolka ayuu bartilmaameedsaday birta ayay kaga dhacday khatar ayay goleen Sool in laga dhaliyo goolkii labaad waa hagaag daafaca gobolka Sool kabtanka qalbi daafaca ninka lagu magacaabo Tawakal bartamaha garoonka ayuu soo dhigay lambarka 23 ee gobolka Nugaal saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa kan Bile garoonka garabka Bile kabtan Tawakal ayaa soo difaacay waa kan Tawakal xulka gobolka Sool daqiiqadii ugu dambeeyay ee ciyaarta waxa ay u dagaalamayaan qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa lagu sii dhawaanayaa goolkii barbaraha ayay u dagaalamayaan 70 ayaanu ku sii dhawaanaynaa 66 daqiiqo ayay haatan maraysaa xaaladdu waa 1-eber Nugaal ayaa hoggaanka ciyaarta haysa ciyaaryahan Cabdixakiim BBC kubadda ayaa madaxa kaga dhacday waxaana markan kubadda soo bilaaban doona xidigaha gobolka Nugaal bartamaha gobolka Nugaal waatan Naani gaashaan ayaa ka soo difaacay gaashaan ciyaaryahan tayo wanaagsan oo ka difaacanaya dhinaca midig ee daafaca xulka gobolka Sool waa hagaag foul ayuu ku galay Naani hadii gaashaan uu yahay ciyaaryahan ku wanaagsan daafacashada Naani waa uu fududahay inuu soo xaroodo laba ciyaaryahan ayuu soo jiiri karaa waa xidig farsamo wanaagsan Naani lambarka 17aad ee xulka gobolka Nugaal waa hagaag injineerka ayaa markan tuuranaya kubad laad xora bartamaha garoonka injineerka ayaa tuuranaya laad xora bartamaha garoonka injineerka goolhayaha xulka gobolka Sool ayuu beegsan doonaa gooshiisa injineerka goolkiisii koowaad ee tartanka ayuu weli raadinayaa waa uu tuuray banaanka ayay kubadaasi u baxday
ciyaaryahanka lambarka 23aad ee xulka gobolka nugaal kaneeca ninka lagu magacaabo ayaa garoonka soo galay kaneeco birta ayuu xilli horeba falaashay waxa uu ku laaday kubad xoogan bartamaha garoonka ayuu ka laaday goolka ayuu beegsaday hase yeeshee birta ayaa ka soo beenisay kabtan Tawakal saaxiibkiisa Coonde ayuu la ciyaaray waa kan Coonde bashka waa tahay booshka waa kan booshka Coonde kabtan Tawakal dib ayuu furtay bartamaha garoonka ayuu soo dhigay kabtan Tawakal waa kan saaxiibkiisa waa kan Khubayb waa tahay Thomas ayaa soo difaacay Naani waa kan Naani bartamaha garoonka Cabdullaahi Miisi waa iska soo difaacday waa kan Yaxye saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa kan BBC Cabdixakiim BBC saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray nugaal waa Sool waa weerar lambarka 11 xulka gobolka Sool waa farsamo cajiiba xulka gobolka Sool diida ayaa hortaagan waa tan Sool mar kale Sool waa iska soo saareen xidigaha gobolka nugaal bartamaha garoonka waa kan Bile ayaa garabka hordaya xulka gobolka nugaal Bile kabtan Tawakal ayaa hor istaagay ciyaaryahanka lagu magacaabo injineerka waa hagaag waa tan Sool waa iska soo saareen mar kale goolhayaha gobolka waa tan Furdaqata xulka gobolka nugaal goolkii labaad ciyaarta ayay la yimaadeen xidigaha gobolka nugaal goolkii labaad ciyaarta ayay la yimaadeen ciyaaryahanka lambarka 17aad ninka lagu magacaabo Naani waa hagaag xulka gobolka nugaal goolkoodii labaad ciyaarta ayay la yimaadeen nugaal ciyaaryahan Naani waa kuwankii labaad uu badal ku soo galo haddana uu dhaliyo goolka waa tahay Naani ciyaartu waa 2-0 70 daqiiqo nugaal ayaa goolkii labaad la timid kani waa goolka kalsoonida xulka gobolka nugaal ayaa la yimid goolkooda kalsoonida ee ciyaarta 2-0 nugaal haatan waa halka ugu sareysa gruubka ee 6 dhibcood ayay leeyihiin xulka gobolka nugaal goolkii labaad ayuu ansixiyey xidiga badalka ku soo galay ee lagu magacaabo Naani waa tan bartamaha garoonka mar kale nugaal waa kan Bile faawul ayaa laga dhigay kubadaasi ciyaaryahanka lagu magacaabo Bile waa tahay Roosa ayuu qaatay ciyaaryahan Bile Roosa ayuu qaatay nugaal ciyaaryahan ayaa ka baxay taasi waxay fursad u tahay xidigaha goolka lagu leeyahay ee Sool Bile Roosa ayuu qaatay waa arrin xun xidigaha tababaraha iyo xulka gobolka nugaalba xidiga Bile waxa uu ka mid yahay xidigaha lafdhabarta ee gobolka nugaal kulankii la soo dhaafay ayuu gool dhaliyay qadka dhexeeya weerarka ayuu isku xiraa haatanse Roosa ayuu qaatay garoonka ayuu ka baxay Bile ciyaarta Roosa ayuu kaga baxay nugaal ciyaaryahan ayaa markan ka baxay 71 daqiiqo wax walba waa isbedeli karaan inkastoo hoggaanka ciyaarta ay haatan iyagu hayaan waa ciyaar xiiso badan waa tahay Roosada macalinka ayaa qaatay Bilena waxa uu qaatay Jaale ayuu Bile qaatay ansaxo halkaas Bile Jaale ayuu qaatay ciyaaryahan Bile Jaale ayuu qaatay halka tababaruna uu Roosa qaatay tababaraha gobolka Sool ayaa kaarka Roosaha qaatay ciyaaryahanka lagu magacaabo Bile Jaale ayuu qaatay waa hagaag xidiga lagu magacaabo Tawakal kabtanku waa iska soo saaray waa hagaag ciyaartu aad ayay u xiiso badan tahay 72 daqiiqo waa hagaag ciyaaryahan Naani lambarka 17aad ayaa dhaliyay goolka labaad ee xulka gobolka nugaal ciyaartu waa 2-0 72 daqiiqo waa hagaag Sool ayaa weerara waa kan Cabdiraxmaan BBC saaxiibka ayuu la ciyaaray waa kan Booshka lambarka 20aad ee gobolka Sool waa iska soo difaacay nugaal waa kan Thomas lambarka 10aad ee gobolka nugaal waa tan mar kale Sool ayaa weerara waa hagaag Sool waa tan nugaal waa soo difaacay bartamaha garoonka xidiga lagu magacaabo Naani garabkiisa ayuu soo jabsaday waa tahay xulka gobolka nugaal mar kale Cabdullaahi Miisi
injineerka goolka ayuu toogtay injineerka kubadihiisu khasaare ayay u badan yihiin maanta bannaanka ayay kubaddaasi martay waa hagaag aynu ku laabanno fursaddan cajiibka ah balbalda siduu u farsameeyey naani taageerayaashiisa ayuu la dabaaldegay awlaadda caasimadda u niyadda igu haya aniga ayaa guushiinna gacanta ku haya hagaag dhinaca goolka gobolka sool ayaa laga soo bilaabayaa waa kulan kale oo xiiso badan nugaal dadaal ayay muujinaysaa koobka inay difaacdaan ayaa ka go'an sanadka waa nimankii ku guulaystay koobkii ugu dambeeyey ee 2014 la qabtay waa hagaag Miraawada Stadium sanadka waa ka qurux badan yahay waa cagaaran yahay waa ka qurux badan yahay sidii waxaan jiray sanadadii hore koobabku kuwii hore way ka xiiso badan yihiin sanadkani koobku waa mid cajiib ah waa hagaag xidiga tayo leh ayaa gobolada oo idil kala matalaya waa tahay sool waa weerar xidiga lagu magacaabo Buffon goolhayaha amaba goolka wardiinaya gobolka Nugaal ayaa haatan kubadda gacanta ku haya 74 daqiiqo 2-0 xulka gobolka Nugaal ayaa ciyaarta ku horkacaya bartamaha garoonka Cabdiraxmaan BBC la dheer ayuu goolka la beegsaday Buffon ayaa isku duubay kubaddaasi goolhayaha gobolka Nugaal ayaa markaa soo bilaabay marka la sheekada ciyaartu waa 2-0 Nugaal ayaa horkacaysa waa hagaag waa kan diidaa saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray Bashiir Xaashi waa kan dadka dhexe garoonka Cabdullaahi Miisi dadka dhexe garoonka waa uu farsameeyay Cabdullaahi Miisi farsamo cajiiba xidigaha gobolka Nugaal waa weerar Nugaal waa hagaag ciyaartu aad ayay u xiiso badan tahay fursad cajiiba ayay iska qaasarayeen xidigaha gobolka Nugaal kulan kale oo xiiso badan xulka gobolka Nugaal iyo xulka gobolka Sool ciyaartu waa 2-0 75 daqiiqo bartamaha garoonka waa kan Boosh lambarka 8 ee gobolka Sool faawul ayaa loo dhigay qaanada waa kubadda waa gacan tuur marka Sool ayaa tuuranaysa faawul ayuu soo qaadaya xidiga Coonde waa kan taageerayaasha Nugaal aad ayay u dabaaldegayaan maanta waa maalintooda haddii aan wax isbedelin maalintoodii ayay u muuqataa 2 gool ayay leeyihiin waxay leeyihiin wiilasheenii iyo koobka noo difaaca naani garabka waa uu soo difaacanayaa haddana waa u weerartegayaa xidiga garabka ka ciyaaraya naani waa kan 23 xulka gobolka Nugaal waa hagaag mar kale waa ta Nugaal waa weerar Sool ayaa daafaca Nugaal waa weerar mar kale fursad khatara waa ta Nugaal mar kale weerar cajiiba waa kan ciyaaryahan Cabdullaahi Miisi mar kale iska soo saartay Sool waa ta markeeda weerar ayay sameynaysaa waa ta Sool waa kan Boosh saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray Cabdiraxmaan BBC waa bixiyay Sool weerar khatara Sool waa tan fursad khatara goolhaya Buffon ayaa kubaddaasi badbaadiyey fursad khatara badbaadiyey ayuu badbaadiyey si toos ayaad inooga daawanaysaan Puntland TV warbaahinta kale ee Soomaaliyeed ee live-kaas ee tooska u baahinaysa garoonka kubadda cagta Miraawada ee magaalada Garowe ayaad si toos u daawanaysaan ciyaar ka socota faawul ayaa loo dhigay xulka gobolka Sool faawul ayaa loo dhigay waa laab xora oo u dhow xarqa 18 taasi waxay dhibaato ku abuuri kartaa xulka gobolka Nugaal waana fursad gool laga dhalin karo haddii ay ka faa'iideystaan xidigaha gobolka Sool Booshka ayaa tuuranaya ciyaaryahanka lambarka 9 ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan BBC iyo lambarka 4 Captain Tawakal ayaa u wada taagan Captain Tawakal ayaa yiraahday hal ii daayo kabtanka mas'uuliyadda xulka gobolka ayuu doonayaa inuu qaato waa hagaag kabtanku xulka gobolka ayuu doonayaa inuu mas'uuliyadiisa qaato Captain Tawakal waa soo qaaday waa soo dhigay Buffon ayay si sahal ugu tagtay waa hagaag ciyaar kale oo xiiso badan Booshka waa iska soo difaacay
bartamaha garoonka waa kan Thomas lambarka 6 ee gobolka nugaal Thomas saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray waa kan Cabdullaahi Meesi bartamaha garoonka ayuu tiiminaya Cabdullaahi Meesi farsamo cajiiba lambarka 6 ee xulka gobolka Sool ayaa se kubadaasi ka soo difaacday waa kan Thomas mar kale Thomas ayaa kubada cagta ku haya Thomas foul ayaa lagu galay ugu dambeyn Thomas waa hagaag 2-0 78 daqiiqo holalka gobolada Sool iyo Nugaal ayaa wada ciyaaraya Sool ayaa haatan eberle 2 gool waxaa leh xulka gobolka Nugaal labada xul ee fardayaasha ayaa iswajahaya fardayaashii dooxooyinka Nugaaleed iyo Sool ayaa galabtooda ciyaaraya waa hagaag waa tahay goolhayaha gobolka Sool ayaa haatan soo bilaabaya bartamaha garoonka ayuu soo dhigay waa kan Cabdixakiin BBC ciyaaryahanka lambarka 9 ee gobolka Sool saaxiibkiisa ayuu kubadda u qaaday waa saay ka baxday khulay ayuu doonayay inuu baas cajiib la wadaago haase yeeshee kubadda banaanka ay baxday kubad gacan tuura ama fool gacan waxa tuuraya ciyaaryahanka gobolka Bashir Xaashi lambarka 22aad ee xulka gobolka Nugaal waa tahay waa kan mar kale Bashir Xaashi dhaliyaha goolka koowaad ee ciyaartan Cabdullaahi Meesi saaxiibkiisa ayuu la ciyaaray bile kubadaasi si cajiib ayaa looga difaacday way socotaa markan Sool ayaa weerara markeeda ayay weerar tahay Cabdixakiin BBC saaxiibka ayuu la ciyaaray lambarka 22aad Jaamac Dheer ayaa foul ku galay waa meel xaqis 18ka fursad cajiib ayay Sool u tahay waa hadii ay ka faa'iideysanayaan xidigaha gobolka Sool waa tahay ciyaartu aad ayay u xiiso badan tahay xolalka gobolada Nugaal iyo Sool waa hagaag ciyaaryahanka lambarka 9aad ee gobolka Sool ayaa haatan tuuranaya ciyaaryahan Booshka ayaa isna ku heliya Booshka waa lambar 8aad oo cajiiba dadka dhexe ayuu aad u iftiiminaya xulka gobolka Sool ayuu qadka dhexe u maamulaya waa hagaag fursad cajiiba Sool waa soo qaaday lambarka 9aad ee gobolka Sool goolka ayuu beesay Buffon ayaa iska badbaadiyay Buffon waxa uu leeyahay garaabta shabaqaygu nadiif ayuu ahaanaya Diida iyo Jaamac Muuse ayaana ka shaqeynaya arinta halka ay garbaha ka difaacayaan xidigaha kala waa xidiga lagu magacaabo Carlos iyo ciyaaryahanka kale ee Bashir Xaashi oo labada garaba waa kan Thomas saaxiibka ayuu la ciyaaraya la Meesi ayaa la ciyaaraysan saaxiibkiisa garabka Naani waa iska soo difaacday Sool waa ka kabtan Tawakkal waa u bixiyay baas dheer saaxiibkiisa lambarka 11aad waa tahay waa iska saaray ciyaaryahanka Jaamac Muuse ee xulka gobolka Nugaal uga ciyaaraya daafaca dhexe gacan tuur ayay soo sameyn doonaan xulka gobolka Sool ayaa gacan tuur soo sameynaya xulka gobolka Sool ayaa gacan tuur soo sameynaya ciyaartu waa mid xiiso badan waa 80 daqiiqo xulka gobolka Nugaal ayaa 2 gool leh waa hagaag waa tahay Nugaal Thomas saaxiibka ayuu la ciyaaray banaanka ayay u baxday xidiga gaashaan ee lambarka 2 uga ciyaaraya xulka gobolka Sool waxa uu soo tuuraya markan kubad gacan tuura Maxamed Rasaas waa tahay markan waxaa kubadda wata Thomas oo lambarka 6 ee xulka gobolka Nugaala Fartugoolosha ay sameeyaan markan kubadda Fartugoolosha ay sameeyaan ciyaartoyda xulka gobolka Sool waa tahay Sool waxay badgo ugu jirtaa gool raadinta gooshii koowaad inay soo yarayaan farqiga goolasha labada ee gobolka Nugaal ciyaartoyda ku hogaaminayo bila ayuu markaasi in dabcay inuu baaso hase yeeshee kubadaasi banaanka ayay uga baxday Coonda ayaa markaa kubad tuurasho soo sameynaya waa tahay Tawakkal Laadeer kabtan Tawakkal waxa uu raadinayaa gooshii ugu horeysay ee xulkiisa ee ciyaartani hase yeeshee daafacyada adag ee gobolka Nugaal ayuu wajahaya waa tahay Jaamac Dheer daafaca xulka gobolka ee Nugaal ayaa markan dhulka yaala oo cabanaya waa tahay ciyaartoyda xulka gobolka Nugaal kubadda banaanka ayay isaga saareen markan daafaca Jaamac Muuse Jaamac Dheer ayaa markan kubadda dhulka yaala waa tahay garsooraha waxa markan waxa uu yar baahda caafimaadka si ay xaaladiisa wax uga ogaadaan
jaamac dheere jaamac muuse waa mid ka mida qalbi daafacyada xulka gobolka waa shubka ay ku xisaabtamayaan gobolka nugaal waa tahay marka jaamac dheere xaaladiisa ayaa lagula dabuubayaa garoonka miro awaare gaar ahaana daafaca uu wardiyaha ka ahaa waayahay gobolka nugaal 2-0 sool markan xaaladdu waa ay ku xuntahay daqiiqad kastoo xagga u sii dhowaata dhammaadka ciyaarta waxay dhibaato ku tahay gobolka sool sidoo kale gobolka nugaal daqiiqad kasta waxa ay jecel yihiin in mar uun albitruhu uu yeedhiyo siiriga dhammaadka ciyaarta haatanse waxa ay haystaan goolka kalsoonida oo ciyaarta 2-0 ayay ka hogaaminayaan 2-0 ayay ka hogaaminayaan nugaal sidoo kale waxay hogaaminaysaa gruubka ay ku wada jiraan 5 xul nugaal bari sool sanaag iyo sidoo kale gobolka highland bari oo gruubka hogaaminaysay maanta ayaa hogaanka lagala wareegay waxayna taasi ka caawinaysaa xulka gobolka nugaal haddii ay sidan ku dhammaato ciyaartu inay la wareegaan hogaanka gruubka e dhanka kale gruubka b oo ay ku wada jiraan gobolada mudug karkaan gardafuu iyo cayn min 3 dhibcood ayay leeyihiin marka laga soo tago gobolka gardafuu oo isaga 2 jeer afka ciidda loo diray waayahay goolhaya buufan ayaa markan kubadda ka soo bilaabaya daafaca dambe hase yeeshee carlos ayuu markan uga tegay kubadda carlos bedel ayaa markan ciyaarta ku soo galay soo galay lambarka 13aad xulka gobolka sool ayaa markan ciyaarta soo galay waa tahay buufan saaxiibkiisa diida ayuu kubadda la soo ciyaaray diida waa uu soo laaday kubaddaasi hase yeeshee bannaanka ayay u baxday waa tahay conde hase yeeshee bila ayaa kubaddaasi iska saaray waa kan kabtan tawakal kabtanka xulka gobolka sool laabeer ayuu kugu soo beegsaday dhanka goosha wardiya uu ka yahay goolaya buufan hase yeeshee carlos ayaa kubaddaasi soo daafacay carlos ayaa jiidanaya naane ayuu u baasay naane waxa uu soo siiyey saaxiibkiisa injineerka kabtanka xulka gobolka nugaal injineerka ayaa markan kubadda gacanta ku haya waa la soo ciyaaray saaxiibkiisa bashka xaashi bashka waa kan waa iska soo daafacay xulka gobolka sool markan sool ayaa weerara waa kan bbc ninka lagu magacaabo conde ayuu u baasay hase yeeshee kubaddaasi baa isa gaaray banaanka ayuu uga baxday markan farturasha ay sameeyay ciyaartoyda xulka gobolka nugaal gacanturasha ay sameeyaan ciyaartoyda xulka gobolka nugaal bashka ayaa markan gacanturashadaasi sameynaya bashka waayahay jaa dheere dib ay ugu soo laabtay garoonka oo kaadi waa leeyahay dib u noqo ana ku ogolaanaya buu leeyahay garsooruhu marka aan ku ogolaado ayaa garoonka soo galaysa waa tahay bile waa kan bile faul ayaa loo dhigay ciyaartoyda xulka gobolka sool ciyaartoyda xulka gobolka sool ayaa markan faul loo dhigay way soo laadanayaan waa tahay daafaca carlos ayaa kubaddaasi iska soo saaray waa kan cabdullaahi messi waxa uu la ciyaaray saaxiibkiisa carlos ayaa markan kubadda jiidaya carlos gobolka nugaal waa weerar waa kan naani injineerka ayuu la soo ciyaaray hase yeeshee tawakal ayaa kubaddaasi iska soo saaray waa kan mar kale ninka lagu magacaabo cumar booshka ayuu kubaddaasi la soo ciyaaray booshka khubayb ayuu la soo ciyaaray khubayb faul ayaa lagu dhigay ciyaartoyda xulka gobolka nugaal sool ayaa markan tuuranaysa waa tahay ciyaarta waxaa dalka ku sii shiday naani oo 2-0 hogaanka ugu sii dheereeyay dhigooda ciyaarta xulka gobolkiisa ee nugaal tan waxay dhibaato u tahay oo ay u geysanaysaa taageerayaasha xulka gobolka sool oo marka horeba aamusnaa ayaa haddana lasii dhibaateeyey oo ciyaarta 2-0 ayay markan ku hogaaminayaan wiilasha gobolka nugaal matalaya waa tahay conde saaxiibkiisa waxa uu tuuray bbc hase yeeshee gacan ayay uga dhacday haatan gacantaas waxaa laabanaya xulka gobolka ee nugaal diida qalbi daafaca xulka gobolka nugaal diida ayaa markan kubadda u diyaara diida daafaca xulka gobolka ee nugaal laadeer ayuu khadka dhexe garoonka miraa waare dhigay waa tahay cumarka ayaa kubaddaasi iska soo celiyey waa kan 11 oo bedelka ku soo galay ciyaarta xulka gobolka ee sool booshka lambarka 8 xulka gobolka boosh bile ayuu kubaddaasi la soo wareegay oo lambar 3 uu xidhay xulka gobolka ee nugaal hase yeeshee isagana isla coondhe ayaa kala soo haray gobolka soola waa tahay bbc waxa uu la ciyaaraya saaxiibkiisa ibraahim
bannaanka ayay u baxday kubaddaasi waxa uu isku dayey inuu toogto linta ganaaxa goolka uu waardiyaha ka yahay Buffon hase yeeshee kubaddaasi bannaanka ayay ka martay sool waxay raadinaysaa goosha calanka daqiiqaduhu waa isku rayaan 87 daqiiqo ayay marka waqtigu maraya 3 daqiiqo oo kaliya ayaa ka harsan waqtiga rasmiga ah ciyaarta garoonka waxaad ka maqlaysaan sawaxanka magaca waa Nugaal guushu waa Nugaal dabaaldegayaasha labada gool ciyaarta ku hogaaminaya taageerayaashoodu marka waa ay faraxsan yihiin wiilasha garoonka ku metelaya ayaana mar horeba hogaanka u sii dheereeyay reer Nugaal inay dabaaldegaan waa ay u qalmaan waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan waxay muujiyeen tayadooda weerarkooda difaacashadooda iyo sidoo kale sida khadka dhexe ay isugu xiran yihiin laba iyo eber ayayna markan ciyaarta ay ku hogaaminayaan waa tahay gobolka Sool dhankiisa inkastoo ay ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen haddana waa u suurageliyay inay soo taabtaan shabaqa waardiyaha ka yahay gobolka Nugaal ninka lagu magacaabo Buffon waa tahay taageerayaasha gobolka Nugaal markan heesa ay ku qaadayaan xulka gobolka Sool waa qayb ka mid ah baraarujinta iyo qayb kale oo ka mid ah in la niyadjabiyo qofka markaasi ka soo horjeedo lagu qayliyo sawaxanka taageerayaasha ayay qayb ka tahay waa tahay marka waa diida daafaca dambe ee xulka gobolka Nugaal saaxiibkiisa Kaneeco lambarka 13aad Kaneeco waxa uu la ciyaarayaa saaxiibkiisa Cabdullaahi Meesi hase yeeshee kabtanka xulka gobolka Sool ninka lagu magacaabo Tawakal waxa uu la soo ciyaarayaa Umar waxa uu la ciyaarayaa Booshka waxa uu la ciyaarayaa saaxiibkiisa lambarka 9aad ninka lagu magacaabo BBC hase yeeshee Carlos ayaa waxa kamid ku tilmaamay baas isu dhibashadaasi fiican mar kale ayuu ninkan Umar lagu magacaabo kubadda cagta uu ku haya saaxiibkiisa wuxuu la soo ciyaarayaa Oonde ayaa markan kubadda cagta ku haya saaxiibkiisa garabka midig ee xulka gobolka Sool ayuu la ciyaaray Booshka ayaa baas cajiib bixiyay Sool markan waa jaamac dheer kubaddaasi bannaanka ayuu isaga saaray koorna ayay heleen ciyaartooyda xulka gobolka Sool 89 daqiiqo ayay waqtigu maraya daqiiqada ugu dambeysay ciyaarta ayaa markan lagu guda jira waqtiga lagu daro ayuu baa la sugaya waa tahay koorna ayaa markan taala xulka gobolka Sool ayaa soo tuuranaya meeli doona goosha calanka meeli doonaan inay gool iska soo yarayaan farqiga goolasha labada oo xulka gobolka Nugaal ciyaartu ku hogaaminayo natiijadu ma sidan ayay ku dhamaanaysaa mise Nugaal laftigeedu waa ay sii dheeraysanaysaa hogaanka mar kale waa tahay Booshka gobolka Sool waa soo korosay madax ayaa lagu bannaanka waa iska soo saaray ciyaartooyda xulka gobolka Nugaal kubadda cajiiba ayay oo halisteeda leh ayay soo weerar ku soo qaaday xulka mar kale waa ciyaartooyda bannaanka ayay kubaddaasi ka martay ciyaartooyda xulka gobolka Sool waxaa waardiyaha shabaqa xulka gobolka Nugaal ninka lagu magacaabo Buffon ayaa markan ka cabanaya in ay dhibaato ka soo gaartay kubaddii madaxa la isla galay ee koornada ay ku soo qaateen xulka gobolka Sool waa tahay baada caafimaadka ayaa haatan garoonka gashay kuwaasi oo wax ka ogaanaya xaaladda goolhaya Buffon waxaan rajaynaynaa inuu ku soo laabto caafimaad oo ciyaartiisa uu sii wato haatan dhulka ayuu yaala ciyaartu gabagaba ayay markan ku dhowdahay waqtiga 4 daqiiqo ayaa lagu daray waqtigii ee dheeriga Sool markan xaaladdu waa ku xuntahay Sool hadday markii hore bareejo soo galeen maanta 2 eber ayaa la marinayaa 4 daqiiqo oo kaliya ayay haystaan balse kubadda cagta wax walba waa ka filan kartaa oo 2 daqiiqo ayaa 2 gool iyo ka badan lagu dhaliyaa waa tahay hase yeeshee Sool ma samayn doontaa sida Nugaal laftigeedu laba kale ma ku dari doontaa waa waxa ka dhici kara daqiiqad kasta kubadda cagta waa tahay weli waxaa lala tacaalaya xaaladda caafimaad ee goolhaya Buffon ayaa weli dhulka yaala daawade ciyaartu waa Nugaal iyo Sool 2 eber weeye Nugaal ayaa 2 gool leh naani waxa uu saxay bashka xaashi 2 gool waa darbiga ciyaarta kubadda cagta gobolada Puntland waa Sool iyo gobolka lagu magacaabo Nugaal waxa ay labadan gobol ay ku xifaaltamayaan dhanka kubadda cagta maadaama ay darisiin isla markaa in badan ay isku wajaheen tartankan oo ay guulo kala gaareen gooshaasina waxay ahayd gooshii koowaad ee ciyaartooyda xulka gobolka Nugaal oo u saxay laacibkooda bashka xaashi mar kale gooshaanina waxay ahayd gooshii labaad
gooshii labaad ayay ahayd gooshii labaad weeye taasina oo uu saxaxay laacibka naani ninka lagu magacaabo koorna ayay marka soo laabanaya ciyaartooyda xulka gobolka sool koornadaasi waa ay soo turteen mar kale bannaanka ayay isaga saaray kaneeco oo ah lamarka saddexaad ee xulka gobolka nugaal koorna kale ayay soo laabanaya ciyaartooyda xulka gobolka ee sool booshka ayaa markan soo laadaya koornadaasi booshka ayaa kubadda koornadaasi soo laadaya booshka gobolka sool koorna ayay soo laabanayaan gobolka sool waa tahay waa daqiiqadii ugu dambeeyey sool waxay raadinaysaa goosha calanka ayay markan raadinaysaa gobolka sool waa ay soo koroseen gool haya maslax ayay si sahla kubaddaasi ugu tagtay oo ku raaxaysanaya haatan maslax ayaa kubaddaasi gacanta ku haya reer nugaal waxay sugayaan keliya waa siidhiga oo la yeedhiyo natiijada cayaartu waa 2-0 mar hore ayayba shaqaysteen saddexda dhibcood ee muhiimka waa kala sarraynta gruubka heerka gruubyada ee gobolada puntland waa tahay khubayb kubaddaasi waa la faawulay oo bashka xaashi ayaa kubaddaasi khalad ku galay khubayb waa lamarka toddobaad ee xulka gobolka sool boosh ayaa markan kubaddaasi u diyaaro qaadaya waxaa macquula inay kubaddaasi noqoto tii ugu dambaysay oo ay laadanayaan xulka gobolka sool waa wakhtigii dheerigahaa waqtiga dhibashada ayaa marka hore kale la yidhaahdaa hase yeeshee marka waxba tiri mayso gool ay la timaada gobolka sool mid kale ayaa laga sii sugaya waa tahay booshka xaggee gelin doona kubaddaasi waa uu soo korosay kubaddaasi karoos fiican ayuu sameeyey hase yeeshee jaadac daafaca xulka gobolka ee nugaal ayaa kubaddaasi badbaadin cajiib sameeyey waa kan injineerka kabtag oo qalad ayuu ku galay kabtan tawakal dhigiisa kabtanka xulka gobolka ee nugaal isla markaasina waxaa lagu abaalmariyey kaarka digniinta jarmaarka tawakal waxa uu qaatay kaarka digniinta yalowga ama jaallaha aadba sidaa u taqaano توماسka alla markii lixaad xulka gobolka ee Nugaal ayaa markan kubadda bilaabaya waxa uu baasay saaxiibkiisa garabka bidix ee Carlos ayaa markan kubadda gacanta ku haya oo soo baasaya Carlos ayaa markan kubadda soo jiidaya waxa uu soo celiyay saaxiibkiisa lama ka saxada kanaaco markan waxa uu soo baasay Carlos ayaa markan kubadda gacanta ku haya weli Carlos ayaa kubadda jiidaya markan Nugaal markan waxay riyaysaa waqtiga oo banaanka ay isaga saareen kubaddaasi gobolka Sool ciyaartooyda xulka gobolka Nugaal markan bedel ayaa u taagan lamarka saddexaad ee ciyaarta bilanka lagu magacaabo ayaa markan la bedelaya lamarka sideedaad ayaana sidoo kale markaasi u taagan bedelka injineerka ayaa bedelay waxa uu garsoor leeyahay waqtiga harriin ee markiiba garoonka iskaga bax waa tahay bila ayaa la bedelay iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo injineerka lamarka sideedaad ayaa soo galay ciyaarta ciyaartooyda xulka gobolka Nugaal markan gacan turasho ay sameeyaan kanaaca ayaa markan kubadda soo tuuraya kanaaca ayaa markan kubadda gacanta ku haya waa tahay ciyaartooyda xulka gobolka Sool kubaddaasi waa iska soo saareen waqtigii ugu dambeeyay daqiiqadii ugu dambeeyay ayaa markan ciyaarta lagu jira garsooraha ayaa markan laga warsugaya oo kaliya yeeliyay siiriga waqtiga dhamaadka ciyaarta waa tahay laba eegaray xulka gobolka Nugaal ku hogaaminaya ciyaarta dhigooda gobolka Sool garoonka waa istaadiyo magaalada garowe caasimada Puntland gobolada Nugaal iyo Sool waa lagu yeeray natiijadu tartanku waa kiisdiga kubadda cagta gobolada Puntland TV iyo sidoo kale warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga ayaa si toos ah nooga socotaan oo uu ka mid yahay TV-ga caalamiga ee ciyaaraha sportiga Stan Sport iyo sidoo kale rasmi cable waa tahay waa kan hambaliyo ayaan leenahay ciyaartooyda xulka gobolka Nugaal oo halkan galabta guul kala tagay sidoo kale waxaan iyagana u hambalyeynaa dhigooda gobolka Highland oo halkan iyaguna saddex dhibcood muhiim ah halkan kala tagay galabta sidoo kale waxaan iyagana u rajaynaynaa in ay ciyaaraha dambe ay soo kabtaan xulka gobolada Sool iyo sidoo kale Bari oo halkan galabta guul darro kala kulmay daawadayaal ciyaarta xiisaha badnayd oo halkan galabta ku dhex marisay gobolada Nugaal iyo sidoo kale Sool ugu dambeyntii waxay ku soo maatay 2-0 oo xulka gobolka Nugaal oo saddex dhibcood ee muhiimka ah oo sidaasi uga qaatay dhigooda gobolka Sool Cabdirsaaq maxamed aad ma santahay halkan laba xul ayaa guulay ku gaaray sida sheegtay laba xulna waa guul dareysteen haatan gruubka waxa sida hogaanka ugu haysta gruubka ee xulka gobolka Nugaal 6 dhibcood ayay leeyihiin kaalinta labaad waxa ku jira xulka gobolka Bari 4 dhibcood ayay leeyihiin kaalinta saddexaad waxa ku jira xulka gobolka Highland 3 dhibcood ayay leeyihiin kaalinta afraad waxa ku jira Sanaag 2 dhibcood ayay leedahay 1 dhibic ayay leedahay Soolna waa kaalinta ugu dambaysa
haddii aynu fiirino berri oo sabtiya laba kulan oo xiiso badan ayaa dhici doona galdafu iyo mudug ayaa ciyaarta ugu horreysa wada ciyaari doona karkaar iyo caynna ciyaarta ku xigta ay wada ciyaari doonaan waa gruubka b afarta xul ee ku jira ayaa iyaguna berri sidaas oo kala ciyaari doona tan iyo tobintan tooska midda kulmi doono